الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أيام هدله allihii noo dhammaystiray diinkeennan wanaagsan nagana deeqay ama diinka laftiisa ka deeqay wax ay soo qaadqaataan oo ay soo gurubsadaan oo ay soo ururiyaan dadka been abuuradka ku shaqeeyo iyo beenaha rabbi diinteenna waa ka deeqay oo kalaamkiisii oo xaqa ahaayo sidqiga ahaa ayuu ku dheehan yahay muslimiintana wuxuu rabbi ugu nicmeeyey ciido ku soo noqnoqdo oo ugu soo laalaabto cibaadaad iyo farxad ugu soo noqnoqdo wuxuu reebay oo uuna ka reebay allah subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah inay ku shabbahaan acyaadda iyo ciidaha umamka gaalada oo yahuudda iyo nasaarada iyo dadka asnaamta caabudo waayo iyaga waxay ku caanbaxeen inay samaystaan ciido ku dhisan ahwaa'dooda iyo waxa ay nafahooduba jeceshahay waxyaabaha ay nafahoodu iyo ay jecel yihiin ciido ku salaysan bay iyagu samaysteen kuwaana rabbi subxaanahu wa tacaala uu naga reebay innagoo intaas og ayaa haddana waxaa jirto kelmadda aan rabno inaan ka hadalno saddex qaybood ama ilaa afar qaybood ayaan u qaybin doonnaa in shaa allahu tacaala qaybta koowaad waxa ay tahay xaqiiqatulciid ciid maxaa xaqiiqdeedu ay tahay oo ciid la yidhaahdaa iyo haddii aan fahamno macnaha ciid intii sharcigu uu ciid noogaga dhigay ma la dhaafi karaa oo ma la gudbi karaa oo ciido kale ma la samaysan karaa iyadoo dadku marka ahwaa'dooda iyo wax lamida ay markaa ku dhisayaan sidaa ma yeeli karaan mise ciid marka la samaysanayo sharcigu waxay u baahan tahay in sharcigu uu ka hadlo ou caddeeyo oo sharciga keliya loo daba taagnaado qodobkaasna waa qodobka mas'aladan ka hadli rabno oo dhanba asalka u ah waayo waxaan ka hadlaynaa waxa ay tahay alixtifaalu bilmawlid maxaa sharcigu ka qabaa xukunkiisuna uu yahay ixtifaalka mawlidka waa ciid xaqiiqadii macaanidii ciidda oo dhan ayuu wataa sida aan arki doonno farxad ayuu la soo noqdaa sanadkiiba mar ayuu yimaadaa cibaadaad buu wataa sanadkaa markaa keliya un la sameeyo iyo damaashaadyo ee farxadyo markaa keliya la sameeyo ayuu wataa haddii marka mawlidka ixtifaalkiisu macaanidii ciidda laga wada helo macnaheedu marka ciid waxay tahayna in la ogaadaa waa daruuri ciid ma la samaysan karaayo ma lagu ijtihaadi karaa oo qofku haddii uu is yidhaahdo alla ilaahay maanta ciid ka dhigo sanad walba maantoo kale markay soo wareegtana farxad iyo cibaadaad gaar ah muuji qofku inuu is yidhaahdaa maxay keenaysaa mas'alada marka sidaas bay raad ugu yeelanaysaa ciidda qaybta labaad waxa ay noqonaysaa taariikhda ixtifaalku ciidan mawlidka taariikhda ay soo bilaabatay goormay muslimiinta lagu dhex arkay yaa ugu horreeyey oo sameeyey oo falkan la yimid si iyada lafteeda aan taariikhdeeda markaan ogaanno wax badan baan nooga baxayo ama wax badan baan fahmaynaa inay ciid ahayd iyo in kale xataa waa garan karaynaa marka dadkii bilaabayna waxa ay dadka ka dhex ahaayeen oo taariikhdooda koobanna in shaa allahu tacaala waa sheegi doonnaa mowduuca saddexaad wuxuu noqon doonaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ha lagu daydo ayaa la yidhi
nebiga maxaa looga dayanayaa bis wixii uu sameeyey hadalka uu yidhi keliya miyaa looga dayanayaa mase dayashada nebiga lagu dayanayo waa ka gudo weyn tahay macnahaas oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam waxaa looga dayanayaa ka tegitaankiisii turuugtii nebiga sal l slam waxyaabihii isagoo samay karo uu ka tegey maanic ka celiyeyna uunan jirin cibaadaadna ah miyaanan uga dayanaynin tarkigaa iyo ka tegistaa nebigu uu ka tegey shaygaas masalada xukunkeeda iyadana calaaqow la yeelan doonaayo waayo wixii nebiga isagaba uu iska dhaafay maanic iyo wax ka celiyeyna aynan jirin baahidii ku keeni lahaydna ay taagnayd laasim xigmad iyo macnou uga tegay nebiga sal l slam ka tegistaas iyo turuugtaa waxyaabaha sidaa oo kale ah ee uu nebiga ka tago ma loogaga dayanayaa ka tegista mase looga dayan maayo iyadana waa mowduuca afaraad u afartaas mowduuc baa anigu kelmadda markay ku warwareegaysaa waxaana ku dhex jiri doono kolleyba waxyaabaha dadka muxtafiliinta ahee ixtifaalo iyagu ay markaa xujooyin iyo ay ka dhigdhigtaan hadba marka meeshii ay noogu timaadaan insha allahu tacaala aan kaga taaban doonnaa waxaan soo ka hormarinaa qodobka koowaad inta aanan gelin waxaa jira dadka qaar inay isleeyihiin mawliidka ka hadalkiisa ama alixtifaal bilmawlid wax faa'iidaa kuma jirto masaa'il ka waaweyn baa jiraan maxaa intaanoo juhdi iyo loogu bixiyey wakhtigan maxaa loogu soo beegaa waxyaabo noocaana waa jiraan dad yidhaahdo munkaraadku siday u kala weyn yihiin horta dad ahlucilmi ah baa garan karo waxaa laga yaabaa adiga saliidda guriga kuu taal haddii lagugu qabsado munkarka adduunka ugu weyn inaa u haysato haddii ilaahay diintiisa lagu been abuurto ee rasuulkii salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wax ounan samaynin laga sheego oo waa sameeyey la yidhaa la masabitana adiga inaynan qiimo badan kugu fadhinino haddaa u badato inaad tidhaa war ilaahay baa ninkaas ka argoosa doono maxaa ka rabtaa hadda ma dad buu dilaa ma dad buu xoolo ka dhacaa yani dembigii dhanba marka waxaa lagu soo koobay wax la dilo wax la dhaco keliya ee taasaa marka dadkii waxay indhatirtay marba haddii qofku ounan daddilid ku jirin markaan wax walba ha sameeya maxaa laga rabaa bal hadallada lagu hadlaayo oo ilaahay lagu masabidanayo qaarkood moogtahay in ilaahay aad u weyneeyeyba oo allah wuxuu yidhi nasaarada markuu ka hadlaayo laqad ji'tum shay-an iddaa takaadu asamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu haddaa an dacow lilraxmaani walada wamaa yenbagii lilraxmaani an yattakhida walada hadalkaas oy gaaladu dhahayaan ilaahay wiilow dhalay wax weyn oo samaawaadku la dumo oo buuruhu yacni la dhaqaaqaan dhulku la dilaaco ayuu ka dhigay waana hadal ay qofka uu ku hadlayo haddaad tiraa hadalkiisaas maxaa dhiboo ku jira isaguu dhibaa hadduu wax dhibe ah ee aad tiraa marka mas'alo basiid ah aad taasoo kale ka dhigto halkan marka waxa yaallaa waxay tahay masabidaad la masabidanayo sharcigii ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey ee bal laga dhalinayo laleeyahay ninkii nebiga jecel xuskan iyo ixtifaalkan uu dhigaa ninka aan dhiginna nebigu ma jecla dad muslimiina waa lagu been abuuranaa rasuulkii ma jeclidiin baa la leeyahay jacayl nebi malihid haddii lagu yidhaahdana asalka jacaylka nebiga malihid haddii qofka la yidhaahdo waaba gaalnimo waayo qof muslima oo jacaylka nebi laga waayi karaa maba jiraba haddii uunan oolinna waaba gaalnimo u fiirso dadkii muslimiinta waa masabidanayaan nebigaa sameeyey ixtifaal bay leeyihiin sharcigii ilaahay buu meel weyn uga jiraa bay leeyihiin waxaas oo marka masabidaad ah dadka ahlucilmiga waxaa waajib ku ah inay bayaaniyaan marka waid akhada allaahu miihaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunnahu linnaasi walaa taktumuunahu in dadka marka baahida hadday taagan tahay waxaa waajib loogaga dhigay culimmada inay caddeeyaan oo aynan qarinin ee wakhtiga wax ku aadinaya haddana munkarka xilliga la samaynayo ee uu rawaajkiisu badan yahay oo hadalkiisa iyo dooddiisu ay badan tahay unbaa munkarka laga hadlaa maahane
mar aan markaas lagu dhex jirin ka hadalkiisu way dhici kartaa markay aayad ama xadiid ay kugu soo marto waan ka hadalnaa, laakiin hadda waxa keenaya sidan in loo caqido waxa ay tahay munkarkiibaa bannaanka yaallo oo shicaar aad arkaysaan oo weliba dhowr sano ka hor aydnan arki jirin isagoo ah ayuu bannaanka yaallaa. ayb intaa iyadana marka de qofkii diinta garanayo ka hadal, qofkii aan diinta garanaynin munkaraadka say u kala wen yihiin inuu noo sheego ee uu yidhaahdo wax ka daranaa yaalle, waxaa ka daran maa laga hadla, kanna layska dhaafo iyo kan dhib male iyo inuu yidhaahdo xoogaa taasi qof cilmi le bay ka suurtowdaa, dadka caamada caqligooda bal hala kala hareen. ayb masalada ugu horayso oo ciidda macna alciid ama xaqiiqatulciid ku saabsan, mafhuumka ciidda xaqiiqadiisu waxa uu yahay masaa-isha diinta marka ugu horayso ugu waaweyn ayay ka mid tahay. ciid marka la yidhaah waa masaa-isha diinta aadka ugu waaweyn ayay ka mid tahay oo shacaa'irta islaamka ka mid ah. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo galay madiina walahum yowmaani yalcabuuna fiihimaa, iyagoo 2 maalmood oo ay ciyaaraan lahaan jiray ayuu soo galay. xadiid abu daawuud iyo imaam axmed ay wariyeen waaye. faqaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ina allaha qad abdalakum bihimaa khayran minhumaa yowmi alfitri wa yowmi aladxaa, alla wuxuu idinkugu beddelay 2 maalmood oo ka qiimi badan oo yacni khayr leh, yowmu alfitri iyo yowmu aladxaa ayuu idinkugu beddelay. bukhaari iyo muslim waxay wariyeen min xadiidi caaisha ina nebigu sal l slam inuu yidhi inna likulli qowmin ciidan wa haadaa ciidunaa, qolo kastaa ciid bay leedahay, tan waa ciiddeenna annaga. marka ciidulmuslimiin wax soocan oo la yaqaano weeyaan. ummadaha kale acyaaddooduna waa acyaad ayaga ay leeyihiin oo acyaad shirki iyo gaalnimadooda ka tarjumayso. ciidaha muslimiintuna waxay ka tarjumayaan tawxiid. labadan xadiid marka waxaan ku garannay ciiddu inay meel weyn ay ka taagan tahay diinta islaamka. alimaam abu muxamed alxuseyn bnu mascuud albagawi kitaabkiisa sharxu sunna wuxuu yidhi haadaa ciidunaa isagoo fasirayo yactadiru bihi canhaa ana idhaara asuruuri fi lciidayni shicaaru ddiin, wuu ugu cudur daaranayaa farxad la muujiyo, labada ciid dhexdooda farxad la muujiyaa shicaaru ddiin waa diinta astaanteedii lagu garanayay macaalim, walaysa huwa ka saa'iri alayaam, maalmaha kale oo kale ma aha. halkanna wuxuu tilmaamayaa macaalimuddiin ama shacaa'iruddiin inay ciidda ka mid tahay. waxyaabaha astaanta u noqonayo diinta ayay ciiduhu ku jiraan. meelaan marka uga socdaa taas waxaad garanaya marka shaygu haddii uu yahay min macaalimiddiin, shacaa'irta diinta uu ka mid yahay, waxaa habboon in laga qaato marka shaarica aan marnaba loo xilsaarin oo aan loo daynin, farahana aan looga qaadin calaa ahwaa'i arijaali wa talibaatihim. dadka inaan loo daynin iyagu siday rabaan iyo rabitaankooda iyo hawadooda inay ciid ku samaystaan inaan faraha looga qaadin, maadaama ay tahay shicaar min shacaa'ir iddiin, in diinta un markaa loo raaco taasay keenaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan ciido ayuu u jideeyey, ciido zamaani ah iyo meelo ay iskugu imaanayaanoo majmac uu ka dhacayo iyo isu imaatin uu ka dhacayo. labadaasna wuxuu ku beegay allah subxaanahu wa tacaala si ay ciidahaasi uga tarjamaan cibaadaad waaweyn. wuxuu ku beegay marka 2 rukni oo arkaanta islaamka ka mid ah. ramadaanku markuu dhammaado maalinta ku xigto waa la ciidaa, farxad iyo suruur ayaana lagu ciidaa. farxaddaasina waxa ay tahay ama ay ka imaanaysaa maadaama dadkii muslimiinta ay makansadeen ruknigii 3aad ee islaamka inay gutaan oo ay la imaadaan waa farxad.
iyagoo nabad qabo oo ruknigaana gutay awoodda uu rabbi ku siiyey waa farxad. cibaadana rabbi subxaanahu wa tacaala waa loogu ciidayaayo ciiddaas la ciidayo salaada ugu horraysa waxa ugu horreeya oo la samaynayo waa la sujuudayaa, waa la rukuucayaa, rabbi baa la weynaynayaa. marka tacdiimkii allana waa ku jiraa. munaasabaduna munaasabad aad u qiimo badanoo rabbi noo dooray waayo subxaanahu wa tacaala. ilaa isagaa rabbi noo dooraya, warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar maa kaana lahum lkhiyara. carafo marka la istaagana oo dadka xujaajtu ay carafo makansadaan, maalinta ku xigtana iyaduna waa ciid. ruknigii shanaad ee islaamka arkaanulislaam ayaa la dhammaystiray. qurbaan iyo xoolo la gowraco ayay dadkii ugu dhowaanayaan rabbi subxaanahu wa tacaala iyadana ciidda agteeda. maalinta jumcada ee sayidul ayaam ah iyaduna maalmaha oo dhan ayaa rabbi uga doortay. rabbi baa doortay, bani aadan ma dooranin. weliba ahlu kitaabka yahuud iyo nasaara loo bandhigay, way diideen. ummaddeenna ayaa qaadatay oo uu rabbi ku sharfay. waa isu imaanayaan, waa isu imaatin cibaado oo rabbi subxaanahu wa tacaala lagu weynaynayo, salaad lagu weynaynayo. amaakinta iyo muqadasaadka iyo marka la fiiriyana meelihii allah subxaanahu wa tacaala uu noo diray inaan marka cibaadaad iskugu tagno ummadda muslimiinta meel walbay joogaanna iyaguna acyaad ayaa ka dhacdo. oo alimaam axmed raximahullah fii musnadihi wuxuu ku soo saaray iyo abu daawuud iyo tirmidi min xadiidi cuqbata bni caamir. nebigu sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ayuu yidhi yowmu carafata wa yowmu nnaxri wa ayaamu tashriiqi cindanaa ahla alislaami ciidunaa ahla alislaam wahunna ayaamu aklin wa shurbin. maalinta carafo iyo maalinta naxriga tobnaadka maalmaha ka dambeeya ciidda 11, 12, 13 waa ciiddeenna ahla alislaami. haddaan dadkii muslimiinta aan nahay takhsiisaa ku jira marka innaga bis oo muslimiinta ah haddaan nahay, innaga gaar ahaan dadka muslimiintaan gaar ahaan sheegayaaye waa ciiddeenna ayuu yidhi nebiga sal ll ly slam. meelahaana markaa dee waxaas aan sheegay ayaa ka dhaco. taqriiraadkan oo dhan waxaan ku ogaanaynaa ciidaha inay tahay horta arrin in la bartaa ay muhim tahay. laba waxaa kaloon ogaanaynaa ciiduhu in sharciga keliya laga qaadanayo oo rabbi uu noo dooraayo oo annaga aanan samaysanaynin hadba wixii aan isdhahno maalin farxadeed oo sanawi ah ka dhigta in innaga aanan isdhahaynin. amrul acyaadi haddaba marka ciidaha arrimahooda tawqiifiyun mutalaqan min asharci. mas'aladan iyadana waxay tahay ciid sharciga keliya in laga qaada karo oo meel kale aan laga keeni karin ciid. imaamu albukhaari wuxuu wariyey fii saxiixihi, muslimna sidoo kale uu wariyey min طariiqi طaariq ibni shihaab can cumara ana rajulan min alyahuudi nin yahuudda ka mid ah qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin aayatun fii kitaabikum, aayad kitaabkiinna ka mid ah taqra'uunahaa waad akhrinaysaan. low calaynaa macshara alyahuudi nasalad, hadday annaga yahuud haddaan nahay nagu soo degto ay nagu soo degi lahayd latakhadnaa dalika alyowma ciidan. aad u fiiriya xadiidkan, maalintaa ciid ayaan ka samaysan lahayn. qaala aya aayatin, aayadeed u jeedaa buu yidhi. qaala wuxuu yidhi yahuudigii alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina. aayaddaas qaala cumar wuxuu yidhi qad carafnaa dalika alyowm, maalintaa waa garannay. waalmakaana aladii nasalat fiihi, meeshay ku soo degtayna waa garanaynaa ayuu yidhi. meeshii ay ku soo degtayna waan garanaynaa. cala nabiyi sal l slam ay ugu soo degtay wa huwa qaa'imun bicarafata, isagoo carafo taagan yowma jumcatin, maalin jumca ah bay ku soo degtay, carafana uu taagan yahay. hadalkan jawaabta iyo su-aasha fiiriya ma isleeyihiin? aayaddaa maalinkay soo degtay ciidaan ka dhiga lahayn buu yidhi yahuudigii.
cumar wuxuu ku jawaabay waa aqaanaa waqtigii aayaddaa soo degtay carafay ku soo degtay maalin jumcay soo degtay ayuu ugu jawaabay jawaab muqnica marka waa tahay jawaabtaas culimada marka fiiri siday uga hadlayaan ibnu xajar wuxuu ishaaray marka cumar inuu yidhi fii bacdi riwaayaat nasalat yowma jumcatin maalin jumcay soo degtay yowma carafata carafay soo degtay wakilaahumaa bixamdi illaahi lanaa ciidun labadoodana ilaahay mahaddiis waa noo ciid yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo iyadu ciid weyba soo degtay mid kale oo aan u samayno aayaddan darteed aan u samayno ciid kale oo aan aayaddan darteed u samayno ma yeelayno rabaa inuu dhahno ciid kale oo aan aayaddan darteed ula imaanaynaa maba jirtaba waaba nala siiyeyba oo maalin jumcaana waa ciid muslimka isu yimaado carafo lafteeduna waa ciid oo majmaculxujaaj waaye meesha xujaajtoo dhan ay iskugu wada imanayaan weeyaan waxaana caddaynaysuu leeyahay marka arrintaa waxaa caddaynaysa lafdiga dabari iyo dabaraani wahumaa lanaa ciidun wahumaa labadaa jimcada iyo carafadu ciid bay noo tahay sidoo kale tirmidi can ibni cabbaas waxa uu yidhi ana yahuudiyan sa'alahu can dalika yahuudi baa ibnu cabbaas su'aalay faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi nasalat fii yowmi ciidayni waxay soo degtay laba maalin laba ciid ay kulantay yowmi اljumcati wa yowmi carafa markaasuu xaafidku wuxuu yidhi fadahara ana aljawaaba tadamana anahum اttakhaduu dalika alyowma ciida wahuwa yowmu اljumcati waاttakhaduu yowma carafata ciida liannahu leylat اlciid waayba ka dhigteenba ciidba sababtoo ah maalinna jumcay soo degtay jumcadu waa ciid carafana habeenkeeda ayaaba ciiddii ay noqonaysaa markaasuu keenay xadiidkii shahraa ciidin laa yanqusaan ramadaanu wadulxija ciidda labadeeda bilood ma nuqsaamaan ramadaan iyo wuxuu yidhi dulxija ramadaan ciid kuma jirto sababtu waa maxay maadaama ay ciidda ka dambaynayso oo maalinta ugu dambaysaba ay cirbinayso ciidda ayaa loo yidhi carafana sidaasoo kale ciid loo yidhi maadaama habeenka ka dambeeyaaba ay ciid iska tahay intaa marka xadiidkaas cumar iskuma howlin inuu ciid kale sameeyo intii sharcigu ku gaabsaday soo maaha alxaafid ibnu rajab fatxulbaarigiisa juska koowaad waxa uu yidhi walaakina alayaama alatii yaxduثu fiiha xawaadiثu min nicami اllahi calى cibaadihi low saamahaa bacdu الnaasi shukran min gayri اtikhaadiha ciidan kaana xasanan maalmaha wuxuu yidhi ay qofku nicmo ou helo oo ay nicmo la soo gudboonaadaan haddii uu maalmahaas u soomo shukri dartii shukran lilaahi haddii maalmihii uu nicmada ilaahay siiyey ou soomo oo uu soon la imaado waa wanaagsanta isagoon ka dhiganaynin buu yidhi ciid fiirso meesha nicmaa qofkan ilaahay siiyey isaga oo aan marka ciid ka dhiganaynin haddii uu maalmaha rabbi nicmada uu siiyey ou iska soomo uu soon la imaado waa wanaagsan tahay buu yidhi isagoon ciid ka dhiganaynin istidlaalan bisiyaami الnabiy sal ll slam caashuuraa iyadoo loo deliishanayo nebigu inuu caashuurada soomay lamaa akhbarahu alyahuudu markay u sheegeen bisiyaami muusa lahu shukran muusaa soomay ayaa layidhi oo shukri u soomay nebiguna marka waa soomay sala اllahu calayhi wasalam wayaquulu الnabiyu sal l slam nebigu wuxuu leeyahay lamaa su'ila can siyaami yowmi اlاثnayn markii la su'aalay qaala dalika yowmu wulidtu fiihi waunzila calaya fiihi isniin maadaama la i dhalay waxyigiina la igu soo dejiyey shukri ilaahay dartii baan u soomayaa buu yidhi waa soomay laakiin ciid kama dhiganin meeshaas aad u fahma nebigu maalintaa isniinta waa soomay ciid kama dhiganin maalin markaa haddii la soo gaaro la ciido oo la farxo oo sida ciidahan ciidulfitriga iyo kale la yeelo ma uunan ka dhiganin maalintii uu dhashay sanadka uu ka dhashayna waaba ka leexday wax gaara nebigu ma samaynin sala allahu calayhi wasalam isniin kasto ayuu rabbi wuxuu uga shukriyey inuu soomo bis taasuu yeelay marka waana midda alxaafid ibnu rajab uu leeyahay
nicmooyinka iyadoo lagu shukrinayo haddaan ciid laga dhiganaynin waa la soomi karaa buu yidhi had ciidda ka warran markaabuu wuxuu yidhi faama alacyaadu alatii yajtamicu calayha annaasu laakiin ciidaha ay dadka kulmayaan falaa yutajaawazu biha maa sharacahu allaahu lirasuulihi la dhaafi maayo oo laga tallaabi maayo wixii alle uu rasuulkiisa u jideeyey wa sharacahu rasuulu liummatihi rasuulkuna ummaddiisa wixii marka kulan guud ah oo farxad iyo damaashaad iyo raynrayn iyo in la kulmo meele laysugu yimaado iyo yacnii waxyaabaha sidaas ah kulamadaasi wuxuu leeyahay acyaad waaye acyaaddaasina marka tii alle uu noo jideeyey baa lagu gaabsanaa iyo midii nebiyullaahi moxamed sal ll slam ummadda uu u jideeyey labadaa marka saasay ahlucilmigu u kala saareen isniinaa la soomay ciidaa la sameeyey ma aha sida caashuuraduba aynan ciid u ahayn marka caashuura la gaaro 10ka muxaram waa soonnaa soo maaha ciid miyaan ka dhigannaa haddana waa maalinkan unbaan soonnaa bis ciid kama dhiganno bal soonkaaba wuxuu keenayaa ciid la'aan waayo ciiduhu lama soomo ciid lama soomo marka maadaama aan soomayna inaynan agteenna ciid ka ahayn baaba cad caashuuradii marka oo sannadlaha ahayd hadday ciid noqon weysay isniin oo usbuucla ah sidee bay marka iyadu ciid u noqonaysaa qiyaas noocee abowse isticmaalay qofka uga qiyaastay ixtifaalkan ciidda ah soonka isniinta la soomo uga qiyaasay qiyaas culummadu taqaano maunan isticmaalin ayb intaas ka bacdi marka dariiqadaas ayaana ahlucilmigu ay ku socdeen oo sidaas in loo kala reebo ciiduhuna ay tawqiifi yihiin oo aan markaa yacni qofku ciid ounan iska samaysan karin kutubta a'immada marka saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin ala'imma alarbaca alfuqahaa'u sabca dariiqaasay mareen ciid aan kuwan la yaqaano aan ahayn ma aynan dabaaldegin ciidna kama aynan soo qaadin shiicada unbaa lagu yaqaanay sidaan arki doonno dariiqaa marka a'immada ay mareen ayay ku socdeen waxaa sidoo kale dariiqaas maray culimmadii qortay oo aliftay kutubaha mawaasimta ama fadaa'ilul awqaadka ka waranto waxaa jira kutub bacdi ahlilcilmi ay alifeen oo ay u alifeen 12 bilood fadaa'isha ku jirto iyo cibaadaadka layska rabo hadday cibaadaad jiraan waxaa alifay inta ugu horraysoon garan aan xasuusto alimaamu albayhaqi kitaab wuxuu leeyahay layidhaha fadaa'il alawqaat waa madbuuc fadaa'il alawqaat ayaa la yidhaahdaa kitaabkaas ma uunan ku soo qaadin bisha rabiicul awal cibaado gaar ahoo la sameeyo isu imaatin gaar ahna ma sheegin cunto gaaroo meel layskula yimaadoo layskula cunuusan sheegin farxad gaaroo la muujiya ma sheegin xataa wax cibaado ah oo bilaha kale ay uga duwan tahay ma sheegin 3 maalmood ee ayaamulbiidka bil walba laga soomo iyo iyadana laga soomaya wax kale ma dheera soo ma garanin yacni nebigu inuu dhashay waa dhashay rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin inuu dhashay cibaado inay u baahan tahay waa in shaaricu uu noo sheego alleh rasuul inay noo sheegaan waay culimmadanna waxay qorayaan aayadaha iyo axaadiidta aayado iyo axaadiidna waa u soo bixi weysay rabiicul awal cibaado gaar ah ee uu leeyahay inay jirto saa darteed marka bayhaqi waxba kuma soo qaadin waxaa kitaab kale alifay alxaafid ibnu rajab raximah اllahu tacaala isagana kitaab ladaa'if almacaarif la yidhaha buu leeyahay ladaa'ifkaas isaguna ma uunan ku soo qaadin bishan rabiicul awal ixtifaalaad iyo ciid iyo waxba ma uunan ku sheegin haddii marka saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immadii ka dambaysay a'immadii 4 ahayd alfuqahaa'u 7
haddii laga waayey hadalkoodii iyo kutubtoodii laga waayey bishan rabiicul awal gooni cibaadaad ay la tahay iyo damaashaad ay gaar la tahay haddii laga waayey kow kutubtii baabkaas loo aadi lahaa ee laga fiirin lahaa ee taariikhda islaamka laguma arkin intii qarnigii afaraad laga soo gaaray saddexdii qarni ee khayrka badnayd laguma arkin bishan rabiicul awal oo sidaan hadda aan arkayno loo ixtifaalayo lama arkin haddii marka aan la arkin goormay bilaabatay marka goormay bilaabatay yaase laga arkay qoladii ugu horraysay ka soo daahirtay oo laga arkay yay ahaayeen taas baan marka rabaa baxdiga labaad in ay noqoto ayb wax yar waxaana daaya ka tegay aan rabaa marka inaan halkan raaciyo ciidda macnaheeda macna alciid waa yar tahay alciid macnaheedu waxaa weeyaan min caada yacuudu ibnu alacraabi wuxuu yidhi summiya alciidu ciidan ciidda waxaa ciid loogu magacaabay liannahu yacuudu kulla sanatin bifaraxin mujadad sanad walbo maalintaa waxay la soo noqonaysaa farxad cusub oo sanad walba ramadaan aan dhammayno maalinta ku xigtaa farxad cusubay la imaaneen sanad walbo aan markaa yowmu carafa laga dhammaado maalinta ku xigtaa farxad bay la soo noqoneen jumcadu farxaday la soo noqotaa khamiista markay dhammaato jumcadu qofka muslimka waa faraxsan yahay leanna cibaadaad iyo wax fara badan iyo barakadii maalinta iyo ayuu raadinayaa soo ma arkay marka ciid summiya alciidu ciidan liannahu yacuudu kulla sanatin bifaraxin mujadad lisaanulcarabka sidaa ayuu tilmaamay ayuu ku sheegay وفي الكليات لأبيالبقاء أبوالبقاء كتاب كيس الكليات وحير كل يوم فيه مسرة فهو عيد مالين والبو فرحة جرته طبعا صون نقنقض سنة كيما مرخو صون نقنقون وعيد أيويري ويدتكم مركا يعني عيد يعني دي أنفير إن مركا بشر ربيع الأول مركا لقاره فرحة كم وقتدتك محتفلين احتفالي iyo dharka ay labisanayaan iyo xafaawada ka muuqato iyo xoolaha ay qalayaan haddii aad fiirsato ciidul fitriga intaa lamaba sameeyaba ciidii weyneyda ciidul fitriga waxa la sameeyo kala la sameeyaa iyo ka badan kaliya salaad baan la dukanin salaatul ciid ayaan la tukanin ciiduna hadda salaad kaliya ciid kuma noqotee sida hadda halkan baan arkaynee farxad iyo dabaaldeg soo noqnoqonayo marka waxaan ixtifaalku waa ciid qaarkoodna way ku qoraan ciidu miilaadi nabiyi bay ku qoraan ciidu miilaadi nabiyi sala allahu calayhi wasalam dhalashadii nebiga ciideedii ayay yidhaahdaan nimankii aas-aasayna ciid waa u yaqaaneen ayb intaa markaan ka baxo marka aasaaskeedii yaa ugu horreeyo laga maqlay kutubta taariikhda iyo ahlucilmiga afafkooda lagama maqlin cid ka horraysay niman la dhihi jiray alcubaydiyiin ama alfaatimiyiin niman faatimiyiin la baxay ama cubaydiyiin la baxay ayaa ugu horreeyey dadkii ugu horreeyey waxaan lagu arkay ayagay ahaayeen cid iyaga ka horraysay ee laga arkay ee bisha rabiicul awal markay soo gasho farxad intay muujiyaan cunto sameeyaan oo bannaanada u soo baxaan iyaga unbaa laga arkay annaga weligaana baxdigu iyo xagga kaa kala aadin waxaan ka hadlaynaa waxay tahay sida hadda loo sameeyo mawliidka bis soo ma taqaanid hadda mawliidka si soo looma sameeyo sida hadda loo sameeyaan ka hadlaynaa haddaad meel kale aado baxdigii baad leexinaysaa yuunan leexanin qaabkan hadda loo sameeyo cid uga horraysay cubaydiyiin ee la sheegay fi taariikh kuma hayno ma hayno ayb laba masdaraanna kaga soo qaadanaa inay iyaga samay jireen iyaga awaa'ilka qarnigii afaraad ayay bilowdeen ilaa 580 iyo xoogaagiina boqortooyadoodii waa jirtay dhulkan maqrib iyo masar ayayna ka tali jireen maqribay ka soo bilowdeen markii dambena masar ayay qabsadeen nimankaa marka qoladaa wakhtigaa joogtay
iyagaa bilaabeenoo qaala almaqriisiyu maqriisi kitaabkiisa layidhaha alkhuطab juska labaad safxada 436 wuxuu leeyahay wa kaana lilkhulafaa'i alfaatimiyiina khulafada faatimiyiinta fii tuuli sanati sanadka dherarkiisa sanadka dhammaantii acyaadun ayay lahaayeen ciido u fiirso acyaadun ciido iyo wamawaasimu iyo mawaasim ayay lahaan jireen wahiya kuwiibuu tirina mawsimu ra'si sana sanada madaxeeda wa mawsimu awali alcaam mid markay dhammaanayso waa ciid markay bilaabmayso waa ciid wa yowmu caashuuraa wa mawlidu الnabiyi sala اllahu calayhi wasalam mawlidka nebiga 12 rabiiculawal ciid bay u ahayd wa mawlidu caliy bni abi aalib radia allaahu canhu cali mawlidkiisii wa mawlid اlxasan wa mawlid اlxusein wa mawlidi faatimata الzahraa wa mawlid اlkhaliifati اlxaadir iyo ninka markaas madaxda ah mawliduu leeyahay isagana waqtiguu dhashay waa la ciidah wa mawlidi walaylati awali rajab walaylati nisfihi walaylati awali shacbaan walaylati nisfihi wamawsimi laylati ramadaan wagurati ramadaan wasimaati ramadaan walaylati alkhatmi wamawsimi ciidi اlfitri wamawsimu ciidi الnaxri wa ciidi اlhadiir ciid اlkhadiir oo shiicada hadda samaysato caan ay ku yihiin 18 dulxijo marka la gaaro ayay ciid weyn dhigtaan 18 dilxija sababkuna waxay ahayd nebiga markii uu ka soo laabtay xajka meel la yidhaha khadiiri khum isagoo marayo ayuu saxaabada la dardaarmay waxyaabihii uu kula dardaarmayna waxaa ka mid ahaa aalubeytkiisa in la ixtiraamo iyagiida maadaama ay aalubeyt isku sidkaayaan aalubeytna waxba uma hayaane maalintaasay marka waxay ka dhigteen maalin aad iyo aad u weynin badan isu soo baxyay sameeyaan maalintaas baciidna maaha waxaan sida hadda annagu bidcadu aan ku arkayno waddankan laftiisa ilaahay ha ka dahiree baciid maaha waxaasoo dhan in diinna looga soo dhigo berri oo wadaad wato lacagna wato inuu waxaa sameeyo intuu dhar u gelgeliyo dad baciid ma la baciidsanayn laakiin iska sii ogaada وكسوة الشتاء وكسوة الصيف وموسم فتح الخليج ويوم النوروز يوم النوروز ومجوست ومالنت مركا مجوست إيدا كدكتان يوم النيروز ويجا مجوس أسل كودا هاسي علماء يراهدين ciidahoodu marka waxay isugu jiraan tashayuc iyo majuusinimo iyo bidac bay isugu jiraan marka ayb maqriisi marka muxuu sheegay inay iyagu mawlid ku samay jireen halkan mid ku haysaa wax ka horeeyay ninkii haayo waa keenan wax badanna waa weydiinay walaanahay ilaa haddana wax ka horeeyay oo sidan u sameeyo waayo sida hadda loo sameeyay waa say ayagu u sameey jireen faadimiinta cid ka horeysay ma hayno qalqashandi naqli labaad waa kan marka قال القلقشندي في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء كتاب كاجوسك سدحات شنبقل تضواتا يلح وحاويري في ذكر مجالس الحاكم العبيدي حاكمك عبيدي مصر كتليو فديدي أولهان جري عيدها واحد أي يترنا الجلوس الثالث فدي سدحات وحاويري في مولد النبي صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول وكان عادتهم عادذوذ وحي أهيد فيه مالنكا دحديسة أن يعمل في دار الفطرة 20 قنطارا من السكر الفائق حلوى لمن أدب العقبة بي أهايين عادذوذ وحي أهيد إن 20 قنطار أو سكر حلوى فائقة لغا سميه حلوى ولا غيبينها من ضرائف الأصناف وتعبى في 300 سينينية حاسن كدب 300 دور تند نحاس يا لو عبينيا ولا قيبينيا marka dadkii baa la gaarayay cuntada ay waxaas sameey jireen qaybin jireen maalmahaas labadan masdar marka waxay noo faa'iideeyeen nimankan faadimiyiinta oo qarnigii afraad bilowgiisii bilowday waayo kii ugu dambeeyay ugu horeeyay 299 markuu ahaa
ayuu soo ifbaxay marka waa iska qarnigii afaraadoo bilowday qarnigaas afaraad ilaa 580 iyo xoogaagii bay taagnaayeen iyaga marka waxaan waa lagu sheegay cid ka horeysaan rabnaa وأما قول أبو شامة المقدسي كتاب كيس الباعث على إنكار البدع والحوادث وحكيري صفحة صدني كواد وكان أول من فعل ذلك بالموصل الشيخ عمر بن محمد الملاء أحد الصالحين المشهورين وبه اقتدى في ذلك صاحب إربل وغيره رحمه الله ninka alimaam abu shaama wuxuu leeyahay ninkii ugu horeeyo mawsil ku sameeyey wuxuu ahaa ninkan la yiraahdo Umar ibn Muhammad al-Malla qaar baan marka taariikhda kala garanaynin waxay yiraahdeen ninkan khayrka lagu sheegay aaba bilaabay oo ka horeeyay Ubaydiinta ninkan kama horeynin taariikhdeedana waa keeni doonaa inuu iska horeynin tan kale abu shaama asaga ugu horeeyay mutlaqan ma dhihin magaalada mawsil oo sheegay bis mawsil ninkii ugu horeeyo ka sameeyay buu ahay buu yiri asaa u horeeyay iyo mawsil ugu horeeyay soo farqi uma dhaxeeyo aqli faham baad leedihiin ayb awliyadan marka awliyo muqayyad oo mawsil ku qaydan ninkan qarnigii lixaad buu ahaa Umar kan qarnigii lixaad uu ahaa waxaana ku tusaa inuu sida ahaa Nuuruddin Zinki ayuu saaxiib la ahaa taluu sii jiray talooyinku ka qaadan jiray markuu mawsil yimid Nuuruddin Zinki boqorkii الحافظ ابن كثير كتاب كيس البداية والنهاية markuu ka sheekeynaya الملك نوردين الزنكي جزء اللي طبناد 446 markii البداية والنهاية markuu yimid موصل wuxuu yiri waqafa ala al-jaami' masaajidka jaamica wuxuu u waqfay qaryatan magaalo min qura al-mawsil kamida magaalooyinka mawsil ku dhow ayuu waqaf uga dhigay masaajidka wadaalika kulluhu bi ishaarati shaykh as-salih al-aabidi Umar al-Malla ninkaana u tilmaamay waqaf u sameeyay marka ninkaani Nuuruddin la jooga Soomaa oo la zaman yahay ilaa uu la sheekaysana waana la talinay وقد كان مركز ابن كثير وحويري إن كان إنه احتفال جري وشاقي سيدا أبو شامة وشاقي وقد كانت له زاوية يقصد فيها مال زاوية اللوغي ماذا لها جري وله في كل سنة دعوة في شهر المولد يحضره عنده الملوك والأمراء والعلماء والوزراء ويحتفل بذلك wuxuu lahaan jiray marka bisha nabiga dhashay wuxuu sameeyay jiray waa ihtifaali jiray waxa uu iman jiray boqorro iyo umaro iyo dad culumaana waa u iman jireen ayb almuhim marka waxa ay tahay waqtiga Umar ibn Muhammad culimada ogol iyo kuwan ogoleen waa soo laabad doonaaye Umar ibn Muhammad al-Malla inuu isagu bilaabin waxa ku tusaayo laga horeeyay isaga wuxuu ahaa qarnigii lixaad nimankan qarnigii afaraad ay ahaayeen caadayna u ahayd sanad walba inay iyaga wali ka sito ka horeeyay marka soo ma garanin waliba ibn Kathiir waqaa'icdan wuxuu ku soo daray xawaadithta dhacday sanata 66 و 500 566 dhacdooyinkii dhacay buu ku dhax keenay meeshan sheekhan markii inuu isagu ihtifaali jiray oo dad u iman jireen horaan u soo ogaanay ciid sheekhan ma sameey karo dadka muslimiinta ciid ilaahay iyo rasuulkiisa u sameey karaan nin sheekh haduu ijtihaado oo ciid sameeyo maalintaana ciid idin ah oo yiraahdo ma laga aqbalayn isaga marka ilaahay agtiisa ma ka helo yani cudurdaar ha ka helo ama yaanu ka helin taasi wax kala weyn لكن قول علماء عيد أو شعيرة من شعائر الإسلام قول علماء كسمايس من ميسن إلهي بأن نوض دوري رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أيان التصي هل كاسي مركا لبي اللابتي لمن كا عبيدين توحكو الرئيم هينو مدن مركا أبو شامنا سيدان ييتهي طيب أما استدلالك أو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا والاحتفالي نبي احتفالي أصحابته احتفال شيء محاو الدليل آيضا قل بفضل الله وبرحمته
fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun. aayaddan waa jirtay intaan mawlid ixtifaalkiisa la bilaabin waa jirtay, nebigana waa ku soo degtay waana la akhri jiray, saxaabada iyo fuqahada iyo a'immadaba way akhrin jireen, haddana ma aynan ka fahmin ixtifaal. mar dhow ayaa la bilaabay, weliba calawilmaalikiyaa bilaabay, cid ka horraysa anu ma aqaano. calawilmaaliki oo qarnigii 14aad ee hijriyada ahaa, qarnigii 14aad, hadda waxaan ku jirnaa 15 sooma, qarnigiina soo dhaafayoon annaga soo gaarnay, xataa qarnigiina soo dhaafoon annagii soo gaarnay qarnigii 14aad ayuu qayb ka ahaa calawilmaaliki. isagaa marka wuxuu keenay aayaddan inuu u deliishado ixtifaalka. hadhow marka diinta yaa ku ciyaaro, yaa taxriif ku sameeyo, haddii la yidhaah yaa diin cusub la imaado, de wax inta ciriiri galay inuu aayad raadiyo ee uu yidhi aayaddan baa tusayso, aayaddiina nebigii ay ku soo degtay asxaabtii iyo dadkii ka dambeeyey iyo kutubu tafsiir xataa kuma taal. aayaddan waxaa laga qaadanaa in la ixtifaalo, xataa kutubu tafaasiir kuma taalo, mutaakhiriin xataa ha ahaadaan ma laha, laga heli maayo. marka waxyaabahaas oo kale marka macno weyn kuma fadhiso. hadda marka waxaan sheegayaa dikru طarafin min xaali اlcubaydiyiin, nimankan mawliidka bilaabay ee iyaga hadda wax ka horreeyey aan la ogayn, taariikhdooda aan ogaano, aadowna muhim u yahay kan. alxaafid ibnu kaiir fi اlbidaaya wالnihaaya wuxuu ku yidhi juska 16aad 455 ilaa 456 markii imaaradoodu tagtay, waqad kaanat muddatu mulki اlfaatimiyiina 280 sana, 280 sano iyo wakasran iyo jajab ayay telinayeen buu yidhi faatimiyiinta. fasaaruu ka amsi daahib, waxay noqdeen shalay tegoo kale. وكأن لم يغنوا فيها waaba inaynanba jirin. وكاana أوla man malaka minhum almahdiy, ninkii ugu horeeyey ee milkiyey yani boqor noqday oo mulugtooda ugu horeeyey wuxuu ahaa almahdi. وakaana min أhli salamyata, ninkaa boqorkoodaa hore salamya meesha la yidhaah ayuu u dhashay oo ahaa. xadaadan ayuu ahaa nin birtuma ah, ismuhu saciidun, magaciisa saciidaa la dhihi jiray. wakaana yahuudiyan, yahuudi buu ahaa. fadakhala bilaada almaqrib ayuu galay, watasamaa bicubaydillaahi buu isku bixiyey. wadacaa wuxuu sheegtay annahu shariifun calawiyun faatimiyun, shariifaan ahay buu yidhi. dadku marka la rabo in xoogaa la beer dulucsado, barnaamij la dhexgeliyo iyo ahlu beytkaa laysu oysiiyaa. waa kuwan hadda farisiyiintan shiicada ah oo aan cid ay dhaafayaan jirin, haddana waxay isu haystaan dulmi aalubeyt la dulmiyey inay iyagu u taagan yihiin celintiisa. waana been, qofka miskiinka oo nebiga jecel unbaa lagu sasabanayaan. wa qaala wuxuuna yidhi inahu lmahdiyu, mahdigii inuu asaga yahay. waqad dakara hada gayru waaxidin min saadaati alculamaaءi اlkubaraa kaalqaadi abi bakrin albaaqilaani washeekh abi xaamid alisfiraayiini wagayri waaxidin min saadaati ala'immati bacda 400. culimmadii qarniga afaraad iyo joogtay kadib ayaa aad u caddeeyey buu leeyahay arrintan a'immada culimmadaa uu sheegay, kamaa basatnaa dalika fima taqadama, saan hore ugu sheegnay. wاlmaqsuudu marka ibnu kaiir wuxuu yidhi maqsuudka ana hada اdaciya almudaci اlkadaaba raaja lahu ma ftaraahu fii tilka اlbilaadi wawaasarahu jamaacaة min jahalati اlcubaadi. wixii uu sheeganayay waa uu dhoodhoobtay, wixii uu sheegayey ou dhoodhoobay waa u hirgashay. waxaana garab siiyey, mar walba u fiirso, waxaa garab siiyey dad juhaal ah oo cibaado badan. waa nin iska cibaadaysto diin jecel laakiin aan aqoon lahayn, meel looga imaado ma yaqaano, waxa qaylinaana iyagay u badan yihiin hadda laftooda. wa saarat lahu dowlatun wa sawla, sidaasoo marka wuxuu ku yeeshay dowlad iyo awood. fatamakana ilaa an banaa madiinatan samaaha almahdiya, magaalo uu isaga isu nisbeeyo mahdiye layidhaah buu dhisay. wa saara melikan mutaacan buu noqday, melig la adeeco. fiirsa marka, yudhiru rafda, shiicannimo iyo abubakar iyo cumar in la lacnado ayuu bannaanka soo dhigaa. wayandawi cala alkufri almaxdi, gaalnimona qalbiguu ku haysta, waa qarsana.
waa gaalnimadiisiina qarinaayo shiicanimana bannaanka soo dhiganayo meel xun unbaa dadka muslimiinta laga soo galaa marka ibnu kaiir wuxuu sheegay khulafadoodiibuu mid u sheegay kabacdi uma waxa uu yidhi waqad kaana alfaatimiyuuna agna alkhulafaa'i faatimiyiintu waxay ahaayeen buu yidhi dadkii madaxda ahaa kuwii ugu hantida badnaa wa akarahum maalan kuwii ugu maal badnaa wa kaanuu min acta alkhulafaa khulafada kuwa ugu duqyaanka iyo xadgudubka badnaana way ahaayeen وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم dad qasbid badan oo ugu dulmin badan وأنجس الملوك سيرة waxay ahaayeen buu yidhi boqoradii muslimiinta soo martay kuwa boqortooyadoodu ay ugu najaas badan tahay وأkhbaثihim siiratan waxay ahaayeen marka kuwa siirada xaggeedana ugu xun taariikh xumo daharat fii dowlatihim fiirso dowladooda dhexdeeda waxaa ka dhex daahirtay albidacu waalmunkaraat bidacda iyo munkaraadka dowladoodii markay jirtay cirkay gashay wa kahura ahlulfasaadi ahlufasaadkii way bateen waqalla cindahum alculamaa'u waalcubaadu dad ilaahay caabudo oo cilmi bartana waa yaraadeenoo waa la waayey ilaa ayagaan ogolayne wa kahura biardi shaami annusayriyatu dhulka shaamna waxaa ku batay nusayriyada waa kuwa hadda ku laaya muslimka meesha cunugan meesha jooga bashaar qoladooda waa nusayriya qoladaasaa ku badatay zamankooda wadursiyatu duruusiyiintu ayagana lubnaanay dhib ku hayaan ayb waalxushayshiyatu wataqallaba alfiranju calaa saaxil shaam gaaladiina waxay qabsadeen xeebtaa shaam oo dhan bikamaalihi xataa akhaduu alquds ashariif intay iyagu meesha fadhiyeen qudus xataa waa la qabsaday wanaablus wacajluun waalguur wabilaadi ghaza wacasqalaan wakarak watabariya wabanyaas wasuur wacahliid wasayda وبيروت وعكا وصفد وطرابلس وأنطاكية وجميع ما والى ذلك أيا لقبصدي إلى بلاد آياس وسيس واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين وبلاد شتى ورأس العين وبلاد شتى وقتلوا خلقا لا يعلمهم إلا الله وحي لا ينضد الله ما عد كلا أين نوجين وصبوا من ذراري المسلمين من النساء والولدان ما لا يحد ولا يوصف ilmaha iyo naagaha muslimiintana wax badan ayaa laga qafaalay oo la tilmaami karin wakaadu an yataghallabu ala dimashq waxay ku soo dhawaadeen inay dimashq ka qabsadaan laakiin ilaahay baa ka ilaaliyay buu yiri ala kullin qalinkii marka ibn kathiir sidaan uu qoray hadaad fiiriso adiga laftaada iyaga waqtigoodii iyo gaalada faafitaankoodii waa isku aadanaa hadaad marka juhuudda gaalada iyo munaafiqiinta iyo mulxidiinta iyo cilmaaniyiinta hadaa fiiriso waxay mar walba u nusreeyaan bidcooyinkan waayo meel ay bidca ka bilaabanto ku faafto shacaa'irtii islaamka inay ka tegaysay ogyihiin haddii macaalimtii islaamka ay tagtana iyaga markaa meesha waa qabsan karaan siday rabaanna waa yeeli karaan waayo xataa hadday xoog ku qabsadaan meel laakiin yacni islaamkii uu nool yahay dad wax sheegi kara ay joogaan weli dadkii qalbigoodu waa dhisnaanaya laakiin haddii dadka looga dhigo waxaan diin ahayn haddii diin looga dhigo waa mashaakil marka meesha ugu dambaysa walidaalika waad yaabaysaa maxaa ka dhaxeeya maandoon iyo nimankan maandoon oo iyagu laba dagaalsan diinta iyo nebiga habdhaqankii rasuulka ay la dagaalsan yihiin naaga badan uu guursaday dagaaluu ku jiri jiray waxaasay ku caayinayaan rasuulka sal ll slam haddana maca daalika in nebiga la xuso oo la weyneeyo waa soo saarayaanoo fursaday siinayaan dadka waxaa ku qaylinayaan arrintaa marka maxay idinla tahay idinku ma nimankan marka ma diin jacaylay sidaa u yeelayaanna maya dadkan muslimiinta un madaxa inta laysu geliyo iyaguna mabda'oodu adkaado uu faafo sidaa unbay ka rabaan baallada marka manshuudada ah waxay tahay gaalada dhulka muslimiinta inay qabsadaan diinta muslimiinta inay ka takhallusaan
taana marka waxa kaliya u mari karaan waxay tahay dadkii in nuxur diineed laga baabi'iyo. bidacduna waxay baabi'iyaan nuxurka diineed ayay qofka ka baabi'inayaan. walidaalika innaga waddankeenna haddaan tusaale u soo qaata laftiisa kitaabkan waxaa la yidhaahdaa بغية الآمال في تاريخ الصومال. بغية الآمال في تاريخ الصومال waxaa qoray nin la yidhaha شhريف عaydaruus ibn شhريف علي عaydaruus. kitaabkanna kitaab makhduudkiisa u jiro ayuu ahaa. makhduudaadka caalamka yaalla oo dhan fahras lagu dhigay, fahras lagu qoray ayaan ku arkay buqyatulaamaalkanay sheegeen oo shariif caydaruus qoray. maktabaddii qaranka soomaaliya ayuuna ooli jiray koobi ka mid ah. sidaasuu dhahayaa faharista ay dhahayaan kitaabka. wax marka oo la diidi kara ma aha. buqyatulaamaalkan marka wuxuu ku dhigay sawiro iyo qoraal. waxaa la yaab leh awalan dadka waaweyn waa yaqaanaanoo berigii hore mawliidka xamar waxaa aad loogu qaban jiray maxfalkan shibis ku yaallaa lagu qaban jiray. maxfalka ninkii aas-aasay waaye shariif caydaruus. maxfalka ninkii aas-aasay waaye shariif caydaruuskan saa sheegaya. waxaa kaloo sheegay 1953 iyo 54 oo dalku uu ku jiray si ahaan gumaysi. 54 daakhiliye iyo waxbaa la siiyey dadka, laakiin 53 dood badanaa socotay. daakhiliye ma la qaadanaa mase lama qaadanayo, buuq badan waxbaa iska jirjiray. aduu gumaysioo waddanka ku dhex jiray talyaani. wuxuu sheegay marka mawliidka marka la qabanayo waxaa ka soo qaybgeli jiray buu yidhi dadka culummada duruqda, iyo waxaa ka soo qaybgeli jiray manduubka talyaaniga mustacmirka ah talyaaniga oo isticmaarka ku jooga markaas waddanka. manduubka xamar u fadhiyana waa ka soo qaybgeli jiray, oo ku sawiran yahay meesha xataa wuu ka soo qaybgeli jiray. waxaa kaloo ka soo qaybgeli jiray UN-ka dadka ka jooga meeshaan markaas yacni almutaxida wixii ka joogana waa imaan jireen. weliba manduubka talyaaniga kelmadaa la sii jiray waana laga tarjumi jiray, mararka qaar uu sheega. aakhirka dambena shariif muxsin nin la yidhaha baa ducay jiray oo dadka muslimiinta caamatan u ducay jiray. waxaa la yaabla marka iyagoo gumaysi ku socdo oo dalkan dhulkiisii inay qaataan oo ay boobaan ku fakareen, boobayna ayaa haddana waxay ku fakarayaan dadkii maxay ugu bixinayaan dhaqaale, maxay ugu bixinayaan waqti, maxay u imaanayaan meeshaas. laba maado waa ku jirtaa: in dadka la siro oo la yidhaha cadow idinma nihin, waa kaas diintiinnii macaalimteedaan idinkala soo qaybgelaynaa. ta labaad waxay tahay dadku inay waxaan intay mashquul ku yihiin war aan dal raadsanno ma ka imaan karto. waxaan haddii dadka lagu mashquuliyo dantooda ma ogaanayaan. walidaalika dadkii la dagaalamayay dad iska caamahay u badnaayeen. dadkan hadda iyaga baabkan ku jiray waxna kama aynan gelin marka iyaga, bal waxaa laga yaabaa inay u ahaayeenba iyaga markaa baro inay u ahaayeen baaba laga yaabaa. calaa kullin innaga lafteenna 53 maxfalkan xamar iyo 54 ayuu hadda halkan ku qoray isaga buuggan uu ku qoray. wuxuuna aad ugu celceliyey mu'asiska maxfalka inuu asaga yahay. waxaan oo dhan marka wax cusub waay. annagana waxaan ka hadlaynaa yacni rasuulkii iyo saxaabadii iyo atbaacu taabiciin iyo shaafici ma laga hayaa? alimaamu shaafici hal xaraf oo mawliid ku sheegaya ma laga hayaa? naga daaya marka. diin cusub yaa wato, waxaa wato ninka 53 ka dhammaala ama calawil maaliki ka dhammaa waaye. ayb cubaydiyiinta marka aan wada wax yar oo ka mida abu shaama almaqdisi kitaabkiisa alrawdatayn fi akhbaari اdowlatayn annuuriyati wاsalaaxiya cubaydiyiintuu ka hadlaa wuxuu yidhi waqad kashafa ayضa xaalahum alimaamu abulqaasim cabduraxmaan bnu cali bni abi nasr ashaashi. imaamkaas ayaa xaalkooda aad u kashifay fii kitaabi اraddi cala albaaطiniyati
وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في أيام النزار وما بعده، ووصل الأمر إلى أن وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سماها الإيضاح عن دعوة القداح. أولها waxaa ku jirtay buu leeyahay حي على مصر إلى خلع عود والسنن فرض sunnaba waa lagu cadilay uu leeyahay Masar. kadib wuxuu yidhi haddii muluugta islaamka fardahooda ay Masar u soo jeedin lahaayeen aad iyo aad bay khayr u ahaa lahayd buu yidhi, ilaa aduu hadalkaasaa u waday nimankaa zandaqe iyo kufri inay ku dhex jireen buu sheegay. Abu Shaama ayaa isaga tacliiqiyey kadib waxa uu yidhi uma inii lam yuqnicnii haada, intan uu yidhi ani ima qancinin buu yidhi min bayaani axwaalihim igama qancinin faafradtu kitaaban baan gooni yeelay lidaalika samaytuhu kashfu maa kaana calayhi banuu cubaydin min alkufri waalkadibi waalmakri waalkaydi. kitaabu asna ka qoray nimankan xumaantooda iyo kufrigooda iyo shartooda. ibnu kaiir fi lbidaaya waannihaaya wuxuu sheegay maxdar in la qoray nimanka asalkooda majuus inuu ahaa ama yahuud ahaa oo faatime aynan ku abtirsanin. culimo badan baa maxdarkaas saxeexay, abu xaamid alisfiraayiini iyo abu bakr albaaqilaani iyaana ka mid ahaa. ahiiruddiin waa iska soo gaagaabina. ahiiruddiin abu xayaan alandalusi tafsiirkiisa la yidhaha albaxru almuxiid markuu sharxayey faxashara fanaadaa faqaala ana rabbukum alaclaa aayadda ayuu wuxuu yidhi qaala ibnu caiya wuxuu yidhi tafsiir kaluu leeyahay ibnu caiya in la yidhaha ana rabbukum alaclaa in dad loo sheego wuxuu yidhi nihaayatun fi lmakhraqati wa naxwiha baaqin fii muluuki misra. wuxuu leeyahay waa doqonnimo meeshii u dambaysay, welina boqorrada masar baaqi bay ku tahay arrintaas uu yidhi. ana rabbukum alaclaada iyo in boqorrada ilaahye laga dhiga baaqi bay ku tahay buu yidhi ibnu caiya. siday marka baaqi ugu tahay wuxuu yidhi abu xayaana dhahayo wainamaa qaala dalika ibnu caiyata ibnu caiya sidaa ayuu yidhi lianna malika misra fii zamaanihi boqorka masar wakhtigiisii kaana ismaaciiliyan buu ahaa wa huwa madhabun yactaqiduuna fiihi ilaahiyata muluukihim. boqorkii masar ee berigaa joogay wuxuu ahaa ismaaciili, wuxuuna aaminsanaa muluugtooda in ilaah laga dhigto. wa kaana awala man malakahaa min masar waxaa kii ugu horreeya oo milkiyey wuxuu ahaa almuciz bnu mansuur ibni alqaa'im ibni almuhtadi cubaydillaahi wa aakhiruhum alcaadid aa la dhihi jiray. wa طahara allaahu misra, ilaahay masar waa ka dahiray min hada almadhabi almalcuun, ilaahay masar waa ka nadiifiyey madhabkan malcuunka ah buu yidhi. marka niman madhabkoodii la leeyahay culimmadu leeyihiin madhab malcuun ah, iyaga keligood ayaa khayr fahmay, ummadihii ka horreeyeyna waa arki waayeen khayrkaas. si dadka looga gada ma la fahmi kara. qof muslima oo iimaan qabo si looga iibin karaa falsafadaasi ma jirto. biduhuuri ilmelik naasir salaaxiddiin ayuu rabbi uga dahiray buu leeyahay, sidaas isna sheegay. suuratu naasicaad tafsiirkeedaad ku arkaysaa. alimaamu dahabi waxa uu yidhi aahaarta ka hartay nimankaa cubaydiyiinta raadad xunay reebeen. raadadkooda maxaa ka mid ah walijahalati almisriyiina wuxuu leeyahy masaarida kuwooda jaahiliinta ah fiihaa nafiisa islaan haween la yidhaah oo caabidad ahayd fiiha ictiqaad ayay ka qabaan yatajaawazu alwasfa oo aan la sifay karinba walaa yajuusu mana bannaana mima fiihi min ashirki hadalla shirki ah bay dhahayaan. wayasjuduuna lahaa waa u sujuudayaan intay u gurguurtaan oo qabrigeeda wayaltamisuuna minha almakfirata dembi dhaafna waa weydiisanayaan. wa kaana dalika min dasaa'isi ducaati alcubaydiyati, caqiida xumadaa waxay uga timid cubaydiyadaasuu leeyahay. innaga marka raadka ugu xunoo nimankaa ay hadda adduunyada ku leeyihiin ixtifaalkan baaba ka mida soo maha, iyaga ay bilaabeen oo ilaa maanta harila. waxaa kaluu yidhi alimaamu dahabi
عبيد الله أبو محمد أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام وأعلنوا الرفض. إسلام كي دبقديين شيعا نمي بنان كدكتين وأبطنوا مذهب الإسماعيلية. إسماعيلية مذهبته ذنوي يعني قرصدين. وبثوا الدعاة يستغوون الجبلية والجهلة. ترتيب أيين دعوذو ذاتكو قارسي جرين. dacwadoodu marka waxaa aad iyo aad uga hadlay maqriisi kitaabkiisa khudadka ilaa iyo wuxuu ka dhigay 10 qayb u qaybiyey. haddaad dacwadooda akhrisaan waqtiga aad igu dheeraanaye waxaad dareemay inayna muslimiinba ahaynba kuwaas dacwadooda haddaad meesha ka akhrisaan. waayahay تاج السبكي الإمام تاج الدين السبكي طبقات الشافعية الكبرى محوكي رأسنا وحوليه توفي الشيخ نجم الدين في ذي القعدة سنة 87 و500 وعلى يده كان خراب بيت العبيديين الرافضة الذين يزعمون أنهم فاطميون kuwaasoo sheeganaya inay faadimiyiin yihiin wainamaa hum muntasibuuna ilaa shaksin ismuhu cubayd qiila inahu yahuudiyun waqiila majuusiyun min ahli salamya dakhala almaqriba wamallakahaa wabanaa almahdiyata watalaqaba bilmahdiy wakaana zindiiqan khabiiثan caduwan lilislaam. wuxuu ahaa buu yidhi zindiiq xun oo islaamka cadow u ah qatala min alfuqahaa'i wاlmuxadisiina umaman fuqahada iyo muxadisiinta ayuu wuxuu ka dilay dad fara badan. وبقيت هذه البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها إلى آخر كيدينا سدا dhibaatada ay u haysay markay dhinteen ay baaba'een haddana waatan dhibkeedii wali wax kamida taagan. ayb intan marka waa soo koobay kuwayaal badan aan ka tegay tasarufaadkoodii waqtiga oon igu kaalmaynaynin darteed. ugu dambayn baxtiga kale waxa uu yahay al-iqtidaa'u bi turuuki an-nabi sallallahu alayhi wasallam. turuugta nabiga sallallahu alayhi wasallam in nabiga looga daydo waxaan ka wadnaa waa sahlan tahay. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wixii uu ka tegay asagoo samay karo baahideediina ay jirto baahidiioo taagan isagoo samayn karo haddii uu ka tegey sabab uu uga tegayoo maanic isaga ka celiyeyna aynan jirin shayga noocaas ah xaqiisu waa maxay in nebiga looga daydo ka tegitaankaasaa looga dayana. idan marka waxaa leeyahay aliqtidaa'u bitarkihi ka tegista nebiga in looga daydo salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi. innaga marka guud ahaan waxaana la faraynaa nebiga ka dambayno raacno ku dayanno. waxyaabahaan uga dayanayna waxaa ka mida marka turuugta waxaana tusaysa qowluhu tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim. can amrihi marka la yidhaha sha'nigiisa waay sha'niguna ficil iyo tarki waa isugu jiraa. saa darteed qawaadicu اladila alimaam mansuur bn cabdiljabaar abulmudafar aلsamcaani oo culimmada shaaficiyada ka mida wuxuu yidhi fain qiila haddii la dhaho low kaana alficlu minhu sala اllahu calayhi wasalam cala اlwujuub ficilka nebiga waajib ayaa laga qaadanaa haddii la dhaho lakaana tarku cala اlwujuubi ka tegista waxa uu ka tegayna in laga tagaa waajibay noqon lahayd. qulnaa waxaan leenahay buu yidhi naquulu waxaan dhahaynaa idaa taraka الnabiyu sala اllahu calayhi wasalama shay-an min alأshyaa'i haddii nebigu uu ka tago shay ashyaada ka mid ah wajaba calaynaa mutaabacatuhu fiihi waxaa waajib nagu ah inaan ku raacno. haddii nebigu uu ka tago shay ashyaada ka mid ah waxaa nagu waajib ah mutaabacada nebiga sal ll ly slam oo ka tegistaas inaan ku raacnaa waajib nagu ah macnaha. ayb abu shaama wuxuu wariyey kitaabkiisa albaacith calaa inkaari اlbidaci wاlxawaadith. alimaam abu bakr alkhalaal kitaabkiisa kitaabu اljaamic ayaa wuxuu imaam maalik uu uga wariyey bisanadihi ilaa alimaam maalik ibn anas. nin baa imaam maalik u yimid markaasuu yidhi min ayna uxrimu xaggeen ka xarmadaa
faqaala wuxuu yidhi min almiiqaati aladii waqata fiihi rasuulu اllahi sal l slam وaxrama minhu miiqaadkii nebigu uu gooyey isaguna uu ka xarmo faqaala الrajulu ninkii wuxuu yidhi laa maya fain axramtu min abcada minhu meel ka fog haddaan ka xarmada ka waran faqaala maalikun maalik wuxuu yidhi laa araa dalika anigu sidaa arki maayo faqaala maa takrahu min dalika oo maxaad u nacaysaa arrintaa ood ku nacaysaa qaala akrahu calayka alfitna fitnaan kuu nacayaa buu yidhi qaala waayu fitnatin fi isdiyaadi اlkhayri oo in khayr la siyaadsadaa fitnada ku jirtaa waa maxay yacnii qofkii nebiguu ku sallinayaa masaakiinuu cunto siinaa masaajiduu ku dhex jiraa khayr baa la siyaadsaday maxaa dhibow taasay la mid tahay midaanin khayr ou la siyaadsadaa maxaa dhibow ku jiro qaala wuxuu yidhi akrahu calayka alfitna waayu fitnatin fi isdiyaadi اlkhayri faqaala maalikun faina allaha tacaala yaquulu alla wuxuu leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat ow yusiibahum cadaabun aliim waayu fitnatin fitnadeebaa akbaru ka weynin badan min annaka khusista bifadlin in lagugu gaari yeelo fadli lam yukhasa bihi rasuulu llahi sal l slam aan nebiga lagu gaari yeelin in adiga lagugu maamuuso fadli nebi moxamed aan lagu maamuusin oon lagu gaari yeelin oo adiga lagugu gaari yeela ka waran fitnada ka weyn maxay tahay taa marka riwaayo kale waayu fitnatin acdamu min an tara ikhtiyaaraka linafsika khayrun min ikhtiyaari illaahi waاkhtiyaari rasuulih wixii alleh rasuul ay kuu dooreen iyo waxaad adiga naftaada u doortay waxaad naftaada u doortay inay kula fiicnaato oo ay khayr kula ahaato fitnada ka daran waa maxay fiir fahamkiisa marka macnihiisu marka waxay tahay war waxaan iskaga tag maxaa u daliila nebigii ma samaynin wayn war nebigiiba ma samaynine adigu ha samaynin saasay ka dhigan tahay imaamkeenna shaafici isaga si cad buubu u caddeeyey qaacidadan kitaabkiisa alrisaala 194 safxada ah markuu ka hadlayay dahabka iyo fidada sakada laga bixiyo wixii dahab iyo fido ka soo haray ma laga sakaynaa saka kuma waajibta ayuu yidhi falamaa lam ya'khud minhu rasuulu اllahi sal l slam walaa axadu bacdahu zakaatan taraknaahu itibaacan bitarkihi markaan aragnay buu leey nebiga asxaabtiisii inaynan ka qaadin dahab iyo fido wax ka soo haray inaynan sako u qaadin markaan sidaa aragnay annaguna waa ka tagnay annagoo raacayno ka tegitaanka nebiga salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh alxaafid ibnu xajar raximahu اllah fatxu lbaariga baabu man lam yastalim ila ruknayn kitaabu اlxaj shaafici baa wuxuu ka jawaabayaa hadal mucaawiye uu yidhiyo shay-un fi lbeyti mahjuuran wax kacbada meel kacbada ka mida oo laga tegaayo ma jirto kulligeed waa taataabsanaynaa markaasuu wuxuu yidhi biannaa lam nadac istilaamahumaa hajran lilbeyt fiiri fahamkiisa innaga wuxuu yidhi labadan tiir markaan taabsanno labada kalena aan ka tagno nacayb aan kacbada nacayna uga tegi mayna ayuu yidhi labadaas kale wa kayfa yahjuruhu qofka daa'ifkaa ee dawaafayo sideebuu uga hijroonayaa wa huwa yaduufu bihi waaba ku dawaafayaa kacbadii oo dhan buu ku dul wareegayaa sideebuu kacbadii qayb ka mida uu u nacayaa laakiinse natabicu sunnata sunnadaan raacaynaa buu yidhi ficlan wa tarkan sunnada nebigaan raacaynaa ficlan wa tarkan wixii uu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna farahan ka qaadaynaa warcad soomaha kan isagana nacam waa imaamu shaafici nacam alxaafid mid kalena fiiri marka alxaafid ibnu kaiir kitaabkiisa طabaqaat اlfuqahaaءi الshaaficiyiin juska 192 wuxuu yidhi waqaala الshaaficiyu wacalaa kulli xaalin masale wuxuu ka hadlayay qof qabriga inta la tago salaatuljanaaze in lagu dukado maalan aadan janaasadii ka qaybgelin oo kale qofka inaad qabrigiisa tagto ood janaasadii ku dukato taasuu ka hadlayay markaasay waxay la gashay qofku intuusan baabi'in iyo waxaasaa loo fiirina markaasuu wuxuu yidhi shaafici wacalaa kulli xaalin si kastoo ay ahaato
falaa tushracu salaatu اljanaasati salaatu اljanaaze la jidayn maayo calaa qabri الnabiyi sal ll slam nebiga qabrigiisa lagu dukado wain kaana jasaduhu nebiga jirkiisu haba ahaado lam yabla inuusan baaliyoobin inkastoo nebiga jirkiisu uunan baaliyoobin caradana aysan cunin haddana salaad lagu tukan maayo nebiga qabrigiisa salaatu اljanaaza salawaat ullahi wasalaamuh lianna salafa u fiirsa cillada marka lianna asalafa waala'imata ridwaanullaahi calayhim waraxmatuhu salafkii hore iyo a'immadii buu leeyahay shaafici lam yafcaluuhu ma aynan samaynin waayo wuxuu leeyahay dadkii innaga naga horreeyey ma aynan samaynin sidaas hadday bannaan tahayna ayagaa samayn lahayba hadalkanna hadal cad waayo oo alimaamu shaafici turuugta sida u ilaalinayo fiir alimaamu nawowi laftiisa asalaatu khayru min annowmta dad baa waxay yidhaahdeen salaatu lcishaa'na waa lagu dhihi karaa markaasuu yidhi wejkaas waa qalad daliilkeennana waxa waa yidhi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun nebigaa ka tegey qofkii soo keena marka wuxuu soo keenay uu soo darisiiyey wax cusub xadiidkan uu xujaysana nahyi gaara ma jiro oo dhahaayo halla salaada cishaha asalaatu khayru min annowm aadaankeeda yaa lagu dhihin nahyi khaasoo sheegay ma jiro xadiidkan caamku uga gaabsaday alxaafid ibnu kaiir aayadda markuu fasiraya low kaana khayran maa sabaquunaa ilayhi fii suurati alaxqaaf wuxuu yidhi waama ahlu sunnati waljamaacati ahlu sunna iyo ahlu sunnati waljamaaca fayaquuluuna waxay dhahayaan fii kulli ficlin ficil kasto iyo waqowlin qowl kasto lam yahbut can asaxaabati saxaabada aan ka sugnaanin radia allaahu canhum huwa bidcatun ninkii hadda yidhaha ixtifaalkan saxaabada kama sugnaanin waa bidco waxaa laga yaabaa dadka qaar inay yidhahdaan gaalaad tahay nebigaad necab tahay kuwii nebiga necbaa waaye inuu yidhahdo culummadii kitaabadii aan akhrinaynin isaanaa noogu taal waa kala jeedaan marka qoladan iyaga iyo culummadu waa kala jeedaan malaha haddaynan rabbi u toobad keenin ibliis unbay u jeedaan xaggiisa ayb wuxuu leeyahy marka fii kulli ficlin wa qowlin lam yahbut can asaxaabati radia allaahu canhum huwa bidcatun liannahu maxaa yeelay low kaana khayran hadduu khayr ahaan lahaa la sabaquunaa ilayhi ayagaaba nooga hormari lahaa ixtifaalkan hadduu khayr ahaan lahaa ayagaa nooga hormari lahaa wadooyinka madiine ayagaa ku orordi lahaa oo la arki lahaa sooma fahmi isaga laftirkiisa ixdaad fowqa ixdaad ku socda mawlid masaajidda lagu haayaan arki jirnay mawlid dhar gaara loo xirto calaamad gaara loo xirto laamiga lagu orordo ma hayno xaggee laga keenay waxaan xusayniyaadkii shiicada waaye shiicada xusayniyaad ay qabaan caashuurada iyo yowmulqadiirka iyo laamiyaday ku orordaan maanta dhan ayagoo dhar gaara wato dhar madmadow markay musiibo muujinayaan dhar madow bay wataan marka kale dhar cadcaday wataan wahaakada waxyaabahaas ku jiraan haddii marka waxyaaba noocan oo kaleo sidan xaalkoodu uu yahay haddii ummadda inta ciid looga dhigo ayaamahaas yacni shaqada ka nasta la yidhaah oo fasaxa shaqada laga yahay la yidhaahdo waa un ogow ciidyo cusub oo la keenayo weliba ciidaha cusub innagu dabcan si nooguma kala duwana 1da julaay iyo tan waayo 1da julaay cibaado iyada laakiin loolama qasdaba dadkan 1da julaay dabaaldegaya iyagu ajar iyo cibaado ka sameeya ama ka hela kama aha haddana ma bannaana waayo ijtimaac laysugu yimaado oo farxadeed ma imaan karo ilaa inuu u xadeeyo shaarica un maahan kan laakiin wuxuu dheeryahay ixtifaalku waa la diimeeyey ajar baa laga raadiyey janno in lagu gelayaa loo haystaa wakhti baa dad badan looga dhumiyey wakhtiga looga luminayo qofku hor masjid gale waxbaro qur-aan akhriso nebiga ku salli intaad masaajidka gees iska fadhiisato salliga nebiga badi ajarkaas inaad ka helayso waa la hubaa laakiin waxaan kale maya ayb haddana siyaasu iska noqdaba halkan kii meel wax uga soo raadsadoo lacaga uga helayo meelo waxaanuu soo dhoobayaa marka hadhow marka si uun meel wax uga helo siyaasaduu noqday kii siyaasi ahna ee kursi raadinayana wuxuu isleeyahay dadkan ha isku kicinine waxay rabaan u ogolaaw
haddii la yidhaha war waxaan maxaad u samaynay war dadkan haddii kale annaga nagu soo qamaamayaanu leeyahay wixii dhammaan marka wuxuu noqday baab siyaaso keliyau noqday haddiise yaarayd ay ahaa lahayd xataa waxaan cibaado annaga uma samaynayna war roonaa lahayd ninkan ruux jibaadayo habeenkii oo dhan haddaad tiraahdid waxaan maxaad cibaado kaama aha haddaad tiraa waa kula dagaala saynan iiga ahayn anuu cibaadaan rabaa ayuu ku leeyahay ayb waxyaabaha marka ibnu kaiirna sidaa ayuu tilmaamay wayna fara badan yihiin aqwaasha sunna tarkiya ku tacalluqdo risaalo gaaraan ka qoray hadda ka hor risaaladuna waa kulley madbuuc waana heli doontaan in sha allahu tacaala mas'aladan dambe sunna tarkiyada ilaa taqriiban maa yuqaarib sodomeeyo culummo ah ayaa naqligooda ama 40 yaan meeshaas ku qoray oon isugu geeyey intanan uga gaabsanayaa haddaba marka waa jiraa ugu dambayn culimmadii dambe mawlidku waa isku khilaafeen ixtifaal almawlid way isku khilaafeen culimmadii dambe waa jiraa qaar ku tiriye bidca xasana waayey yidhi min mustaxsanaati albidac abuu shaamaana ka mida suyuudi baa ka mida fi lxaawi kuwo kalena way diideen ogow marka oo kuwa diiday waxaa ka mida ashaatibi kitaabkiisa saaxibu almuwaafaqaat fataawadiisa waxaa la weydiiyey qof ka dardaarmay xoolo in ixtifaal mawliid lagu bixiyo xoolihiisa wuxuu ku jawaabay marka inaan lagu bixinin waayo dariiqo saxa ma ahan buu yidhi waana dariiqo bidcaa wayna qaldan tahay mana bannaana in lagu bixiyo ayuu yidhi fataawadiisuu sidaa ku leeyahay shaatibi faakihi isaga laftiisa faakihi tasniifuu leeyahay kitaab oo uu ku naqdiyey marka mawliidku uuna ku tegay bidca qabiixa inuu yahay khilaafka culimada marka xujo ma noqon karaa marka culumaa iskhilaaftay xujo ma noqon karaa ma noqonayo khilaafku xujo khilaafka isaga biko khilaaf ahaantiisu xujo maaha waa in marka la fiiriyaa yacni labadan culimo ee iskhilaafsan yaa xoog badan qawaacidka sharciga marka la fiiriyo hadda innaga waxaan ku soo bilownay ixtifaalku inuu ciid yahan ogaanay ciid sideeda tawqiifi miya mase waa lagu ijtihaadi karaa waa tawqiifi ninna ma samaysan karo koow ziyaado labaad ama arrin labaad waxa ay tahay yacnii cidda waxaan loogaga dayday ee bilowday waa baatiniye weeyaan kuwii ugu xumaa dadka ayaa bilaabeen baatiniyadana mowqifkay ka taagnaayeen culimmada waa la yaqaanaa laa siyamaa culimmadeenna shaaficiyada xataa masaa'il badan bay waxay leeyihiin sidan ayaa raajix ahaan jirtay laakiin hadda sidan baa raajix ah waayo waxaa la khilaafayaa shicaaru ahlilbidac shicaarka raafidada shicaarka shiicada markii hore shaaficiyadu tasdiixa iyo tasniimka agtoodu waxaa ka ahaa murajax tasniimka yaa murajax ahaa jiray markii dambena tasdiixay rajaxeenoo waxay yidhaahdeen ama cagsi bay ahayd tasdiixa murajax ahaa markii dambe tasniimkay rajaxeen sababtuna waa maxay shiicadu u noqday bay dhaheen calaamad taasay uga tageen shiicada iyo marka nimankan khawaarijta iyo tasdiixu in la simo oo isaga dhan marka aan kurus iyo loo yeelin taag aan qabriga loo yeelin way tasniimkuna dhaxda in taag looga yeelo aduu marka hab qabriga loo sameeyo way labadaba waa bannaan yihiin laakiin shaaficiyadu mid bay doorteen ka kalena waxay uga tageen liajli shicaar shiica inuu yahay sidee marka ciid dhan looga qaadanaa marka shiico iyo majuus niman ah dhinaca kale haddana haddaad fiiriso munkaraadka ku soo kordhay culimmadaa bannaysay xataa ma ogeyn waxaan maalinba maalinta ka dambaysa waxbaa ku soo kordhayo shirkiyaad baa la akhrinayaa iyagu shirkiyaad ha la akhriya ma dhihin culimmadaa hore ogowha ee rag iyo dumar haysla qayliyaan ma aynan dhihin dumar ha la soo saaro bannaanka ha loo soo bixiyo yacnii mudaaharaad ha sameeyaan ma aynan dhihin waxyaabahaas oo dhan munkaraadka ay marka laysu geeyo iyo inaan ciidba la samayso karin ayaa dhammaan waxay daliil u tahay xilligii saxaabada iyo taabiciintana uunan jirin khayr waa kii waagaas jiray
saadarteed buu marka ixtifaalka mawlidku uu ku yahay bidca shaniico ah oo qabiixo ah oo in laga fogaado ay tahay oonan ugu dhowaanayno alle subxaanahu wa tacaala ka tegis aan ka tegayno inagoo nebiga uga dayanayno sala allahu calayhi wasalam ilaa nebiga ma ixtifaalin asxaabtiisiina ma ixtifaalin iyagaan raacaynaa ninkii intaas ka bacdi marka alqaab iyo naanaysyo qaab daran iyo gaalaad tahay iyo nebigaad necab tahay iyo yidhaahdo afkiisa isaga uu ku yaallaa mawcidkana waxaa weeyaan ilaahay hortiisa halkaas baa marka waxaa ku caddaana ninka khasaare la aado iyo waxaan nebi moxamed ogayn ninka halkaa ayaa lagu arkayaa waxyaaba waxaa jiro la yidhaahdo culimo ayaa waxay alifeen mawlid ibnu kaiir mawliduu alifay ibnu dixya mawlid buu alifay ciraaqi mawlid buu alifay ibnu dixya mawlid mawlidku waa jiraa waa kaas culummadaaba saas qabto show mawlidku waxay u qaateen ibnu kaiir iyo hebel hebel mawliduu alifay waxay u qaateen iyaga barsanjigan oo kale nacam barsanjigan oo kale inay alifeen miyay u malaynayaan maydaa maaha mawliday alifeen macnaha waxay tahay siiray alifeen waaye nebiga wakhtigii uu dhashay laga bilaabo ilaa uu dhintay siiray alifeen war in siiro wax laga qoro maan isku haysanaana siirada sultaan masaajidda ku akhrinaba siiro maxaa loo qoray khilaafkeennu maaha ee culimmada mawliday wax ka qoreen marka lagu yidhaahdo halla ixtifaalana ma dhihin bisha mawliidna cibaadaadkaasaa jirana ma dhihin saa darteed marka ha kaa harto waxaa daabacanaan filayaa mawlidka ciraaqi kan ciraaqigaa daabacan fiiriya idinks hadduu ku qoran yahay ixtifaal ballarka waxaa la yaabla marka qofka afkiisaa qoyan hadduu wuxuu rabo u sheego oo uu isleeyahay cid kaa daba tegaysana ma leh waayo kuwa asaga u xaraysan waa u qufulan yihiin laakiin hadday dadku nin walbaa xor intou noqdo wax dhegaysto waxaa xaqiiqdaa marka wuu garan lahaa khulaasatlqowl marka ixtifaalkaani waa ciid la samaystay kulli macaani lciidoo wataa ciidna annaga ma soo siyaadsan karno kow aasaaskiisii nebiga asxaabtiisii iyo culimmadii afartaee madaahibta kama imaanin ee aan naqaanay kutubta fiqiga nooguma qorno mawliid kutubaha axkaamta aan akhrisanno mawliid nooguma dhigna waa labo kan saddexaad dadkii waxaan bilaabay oo cid iyaga ka horraysay aan la aqoonin dad diineed ma ahayn dad gaalnimo afka gudaha ku haysto shiicanimona islaamka ay muujiyaanna shiicay ahayn ta kale waxa ay tahay acdaa'uddiin oo mawliidkan ixtifaalkiisa garab taagan maanta hadday ama UN ahaa lahaayeen hadday ahaa lahaayeen safaaradaha waddammadan yacni gaalada waa daba taagan yihiin bal dowrkii waxaa la soo celinaa bay leeyihiin culummadaas ay lahaa jireen dowrku ay culummadaas lahaa jireen waa kii ay ixtifaalkana ugu imaan jireen waddankana ay uga haysteen waddankoodiina yani way ka haysteen 12 rabiicul awalna iska ixtifaal baa loo ogolaa waana u imaan jireen kaas waay marka dowrka in la soo celiyo la rabo ta kale kutub in lala dagaalamo la yidhaha qur'aan iyo sunna ku yaallaanoo tawxiid ku yaallo kuwaasaa dadka dhibay la yidhaha iyadana marka maxay ku tusee waxaas oo dhan gaalku marka caqiidada iyo sunnada labadaas ayuu la dagaalamaa haddii caqiida iyo sunna meesha ay ka baxaanna ummaddaasi ummadnimadoodii waa ku daysay macnaha meesha ku jira sidaas waaye saa darteed baan u arkaynaa cilmaani mulxid gaal dhammaantood inay daba taagan yihiin inay soo celiyaan acyaaddan baatilka ah inay ummadda muslimiinta ku soo dhex celiyaan caqiida xumada sunnada in laga tago oo la yidhaha xadiid maba jiraba oo aragta xadiidka yacni xadiidka waad arkaysaan weerarka lagu haayo xadiidka kulli dad wada qoran waaye hal mabda'na ka duulaayo daa'ifadaanna waxaa loo isticmaalayaa diinka annaga ma diidanina arka waayo dadkan oo culummadii soomaalida weligeed ahaa jiray baanba ogolnahay ayaa socoto nin walbow marka diinkaaga adiga meel u dayo xaqa raadso ku fara adayg xaqa ku dhimo xaqa
sidaasaa khayr kugu jiraa marnaba ka heli maysa haddaad qolooyinkaa adeecdo wanaag yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yaruduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin shakina male siyaalo kalena inay dad kale u adeegsadaan oo sumcadda sunnada fool xumeeyo dad sumcada sunnada fool xumeeyo oo waxaan sharci iyo caqli midna aan yacni ku bannaanayn intay la imaadaan la yidhaahdo hadhow sunnadiiba saasay u taallaa tawxiidka la sheegaya waa kaas la yidhaahdo waxyaabahaasna marka kulli minhum wa ilayhim waxaasoo dhan marka ilaahay aan ka cabsanno hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi waasxaabih نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جزاه الله خير الجزاء وحفظه الله شيخ أحمد موضوعي وحبك متقين من بدايتي إلى النهاية ولما يستري سيئو فافاصا ورنتي قفكي هندون وكوكان حكرا وعلمي عن موعدة ونحكرية أهين ayuu uga hadlay meel marka looga laabto malah tanbiihaad yar aan rabaa qof walba bal inuu wax isweydiiyo su'aalahan soo socda qof walbaaba waa inaad ogaato adigu waa inaad isxisaabido intaan ilaahay ku xisaabin intaan ilaahay ku xisaabin xisaabaa kugu soo socota caruurta yaryaroo imtixaanku sugaya ma hurdaan annagoo imtixaankii weynaayo ilaahay hortiisa ahaa na sugayo inaanaan wax isweydiin oonaan diyaargaroobin sax maaha marka imtixaankaas ilaahay hortiisa qof walbaaba waa inuu wax u diyaarsado su'aasha koowaad oo aan leeyahay walaalayaal qof walba isweydiiye mawliidka dadka dhigaya oo xafladaas dhigaya iyo culummada ay u daliishadeen oo yidhaahdeen culummadaasa tiri iyadoon qowlka culummadu daliil ahayn ee qowlka daliil raba dhammaan waxay ku bilaabaan hadalkooda mawliid nabigu ma dhigin sal اllahu calيه wasalam abubakar ma dhigin cumar ma dhigin cuثmaan ma dhigin cali bn abi aalib ma dhigin waaxid saxaabada ka mida ma dhigin taabiciyaalkuna ma dhigin afarta imaanee mashhuurka ahee madaahibtuna ma dhigin kadibaa la bilaabay sidii shiiku sheegaya qaar yidha meliku mudafara bilaabay iyo qaar yidhahdo waa looga horreeyey xataa faadumiyiinta waa ka soo ka marinaya qarnigii lixaadu bilowday leey waa kuwa dhigaya culummada diidaydana waa dhegaysateen iyaguna inaan intaas hore dhigin oo nabi iyo saxaabo sal اllahu calayh wasalam iyo taabiciyaal iyo a'immatulhuda midna dhigin iyaguna sidaas u sheegayaan halkaas maxaa laysku waafaqsan yahay cibaadadii iyo diinkii nabiga iyo saxaabadu haysteen mawliidku ka mid maaha intaas waa laysku waafaqsan yahay maxaa laysku khilaafsan yahay waxaa laysku khilaafsan yahay gadaal markii laga soo dirisiiyey waa bidco waana sharci ha laga leexdo oo culummada diidayda leedahay iyo kuwa dhigayoo leh waa bidca xasani ha la dhigo meesha laysku khilaafsan yahay bidca inuu yahay waa laysla ogolyahay laakiin waa bidca fiican iyo maahan waa bidca shara intaas weeye sow maaha su'aasha koowaad marka waxay tahay qof walbo isweydii qofkii ku sugnaada diinkii nabi moxamed sal allahu calayh wasalam diinkiis abubakar cumar cuثmaan cali iyo qayrkoodoo saxaabadii ah oo aan mawliid ka dhigin qofkaasu diinku haystaa ma kaamila mise nuqsaana ku jirta qofka yidhaahda diintaasu waa naaqis maxay noqonay hadalkaas maxaa ka dhalana nabiga iyo saxaabada diintu uma dhammaystirnay sow maa marka waa inaad ogaato qofkii haysta diinkii nabiga sal اllahu calay wasalam diin kaamilu haysta hadduusan wax kale asagu iska nuqsaamin laakiin qofka ku soo daray mawliid shaygii kaamilkahayo wax ku dar marka waa xaqiiqo qofka cadliga samayna inuusan dhigi karin intii nabiga iyo saxaabada qofkii ku gaabsada waxbaa ka maqan inuusan dhigi karin isweydii su-aasha kale taasna hadda kitaabkii sunnada sidaas alyawma akmaltu lakum diinakum nabigoo joogay soo degtay aayaddaas soo maahan nabiguna sal allahu calay wasalam isagaa yidhi maa taraktu shay-an yuqaribukum min aljanna wa yubaacidukum min annaar ilaa waqad amartukum shay janno iniin dhoweeye kama tegin waa inin amr
shay naar in ka fogeeyana kama tag wayna amr idan marka mawlidkuna kamid maahay wixii nabigu amray sallallahu alayhi wasallam marka mawlid aad samaydo jannana ugu dhawaamaydo naar uga fogaamaydo daacadana waxa loo sameeyaa jannada ilaahay ugu dhawow naartana uga fogow ilaahay raaliha kaaga noqdo su'aasha labaad nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska Abu Daawud iyo Ahmad iyo qeyrkood ay wariyeen xadiis al-iftiraaq wuxuu sheegay ummadiisu 73 firqayn oo qaybsamaydo nabiga sallallahu alayhi wasallam 72 wuxuu ku xugmiyay inay naar muteen hal midna nabiga sallallahu alayhi wasallam inay badbaaday ayuu noo sheegay oo kulluha fi naar illa waahid ayuu waxa la weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam midda badbaadayda nabigu wuxuu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam yallati takunu ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi nabiga iyo saxaabadiisa waxay ku sugnaayeen qolada aakhirka ku sugnaata waa qoladaas qolada badbaadaydu hadaadan mawlid samayn diinkii nabiga iyo saxaabadu ku sugnaayeen aad ku sugnaato shaki ma la gali kara inaad badbaadaydo waa may laakiin qofka ku soo daray mawlid oo diinkii nabiga inuu sanayn asaguba qiran diinkii saxaabada inuu san asagu qiran ma wuxuu kamid yahay firqada nabigu tilmaamay ma 72 labadu ku jira 72 labadu ku jira illa asagu waxba ku daray soo maahan taasna qof walba u bal maskaxdaada iyo maankaaga gali tan saddexaad miyuusan ka baqayn qofka mawlidka ku soo daraya diinka oo la waa diin xawdka nabiga sallallahu alayhi wasallam in laga eriyo sida ratiga baadida darka looga eriyo Bukhari iyo Muslim waxa ku sugan nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dad ayaa darkayga looga cayrinaya sida ratiga baadida looga eriyo markaasaan leeyahay ummati dhanka bidixna waa la qaadsiina markaasaa leeyahay innaka la tadri ma ahdathu ba'daka war kama haydid adiga gadaalka waxa ay diinta ku soo dareen aimadu dadka saddex ku tilmaameen dadkii ridoobay oo islaamka ka baxay oo gaalnimo la yimid imaam Nawawi sharxiisa wuxuu ka soo raray al-Hafiz ibn Abd al-Barri inuu yiri dadka bidcada diinka ku soo daray iyo dadka kabaa'irta waaweyn sameeyay labadaas u fiirsada marka qofkii iska daayay oo intii nabiga iyo saxaabada ku sugnaada waa nabigu wuxuu u xukmiyay inuu badbaadayo laakiin qofkii ku soo daray ma wuusan ka baqayn in xawdka nabiga bidix laga marsiyo oo la yiraahdo sida sahih muslimka ku sugan nabigu uu yiri suxqan aan leeyahay fogo naarta Allah ku fogay qofka diinta wax ku soo daray oo wax ka bedelay u fiirsada walaaliyaal tan kale oo afraad oo aan rabo walaaliyaal inaad isweydiidaan waxa ay wax kasta oo sameeyno qowl iyo ficil ilaahay hortiisa wana la weydiinaya qofkii u fiirsada qof kasta aad si degan u fiirsado ilaahay maalinka la hortago qofkii aan diinta wax ku soo darin oo intii nabiga saxaabada ku gaabsada ma dhici karta in la yiraahdo wariya maxaad ugu soo dari weyday diinta wax oo intii nabiga ugu gaabsada su'aashaas ma ku iman kartaa ya wariya diinkii nabiga iyo saxaabadu ku sugnaayeen maxaad wax ugu soo dartay ma ku iman kartaa su'aashaas ma dhici karto laakiin qofka wax ku soo daray ma wuusan ka baqayn ilaahay hortiisa in la yiraahdo maxaad ugu soo dartay diinta shaygan ya walaaliyaal su'aashaas inuu wax ka u diyaarsado soo maahan ilaa dadka mu'miniinta dad iska socda maahan ilaa wuxuu ku tilmaamay waa dad cabsi ku nool ah walladina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raaji'un waa dad daacadka markay sameeyaan cabsi ku nool ah oo ka walwalaya ilaahay baa lagu celinaya maxaad dhihi doontaa وانا dadka badbaada waqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin dadka ilaahay hortiisa ka badbaadaya waa dadka adduunka cabsan jiray marka qof walba waa inuu ka jawaabo su'aashaas naftiisa uu gaar u weydiiyo arinta shanaad waxaan rabnaa inaad isweydiidano Abu Bakar ma ihtifaalin mawlid ma dhigay wala isla guriga qolada dhigayday qolada kale عمر ما سمين عثمان ما سمين علي ما سمين دمان صحابته ما سمين تابعيالكم ما سمين دبنا قدال واكو كسمي ابو بكر يا عمر يا صحابتي كله نبي ما جعلين ما جعلين waxaan leenahay marka Abu Bakar wad ogtiin waxa ku soo aroray oo fadaa'ilah iyo Umar iyo Uthman iyo Ali iyo qeyrkooda saxaabada jacaylka ay nabiga jeclaayeen
nabiga sallallahu alayhi wasallam sida muslim iyo qeyrkiis ku sugan Umar ibn al-Khattab wuxuu ku yiri qofka ilaa naftiisa uu iga jeclaado wali iimaan laga helin kaamil u fiirso nafteeda waa ka jecelahay nabiga Abu Bakr Umar saas yiri nafta aniga igu jirta markaas yiri hadda laga helay iimaankii kaamilka ah u fiirsada qof kasta oo aan nabiga naftiisa ka jeclayn iimaankii waajibka ah oo looga baahnaa laga helin qofku waa inuu naftiisa ka jeclaado nabiga sallallahu alayhi wasallam oo nabiga iyo naftiisa waa inuu nabiga jeceliyo sallallahu alayhi wasallam caruurtu dhalay nabiga waa inuu nabiga jeceliyo waalidkiis iyo nabigana waa inuu nabiga jeceliyo saxaabadana sidaas ku sugnaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam ansaarta dagaalkii Uhud yaa janno u ballan qaado oo naga difaaca gaalada markaas aan isku aadeysa nabiga sallallahu alayhi wasallam fallaarta nabiga lagu soo ridayo xabadkiisa u dhigay waa la dil mid kale soo istaagay waa la dil toddoba saas la isku saaray ma jeclaayeen kuwaas nabiga sallallahu alayhi wasallam kuwaas ma dhigin xaflad mawlid ya kuwaanuna waa dhigeen labadaba qolaa nabiga jacayl badan yaa nabiga jacayl badan marka qoladii dhigeen iyo qoladan aan dhigin soo marka been cad maahan alla looga biqin illa yiraahdo qofka aan mawlid dhigin nabiga ma jecla soo been cad maaha ya qofka nabiga aan mawlid u dhigin nabiga ma jecla soo been cad maaha nabiga dadkan mawlidka u dhigin ma jecla macnaheedu maxaa ka dhalana Abu Bakr ma jecla ka iimaanay Umar ma jecla ansaar iyo muhaajir ma jecla ka iimaanay soo ma jeedin soo been cad maaha subhanallah soo ilaahay looga baqa ma haboona tan lixaad aayad kasta hadalkaas u fiirsada aayad kasta aayado badan la akhriya oo leeyahay mawlidka daliil u yihiin ahadiis badan waa la akhriya oo leeyahay mawlidka daliil u yihiin aayadaas iyo xadiiskaasu ma nabiga ku soo dageen horta mase waadan bay soo dageen nabiga ku soo dageen ma jiro daliil gadaal ka yimid saxaabada taabiciyalka a'immatul huda kama fahmin mawlid wax la yiraahdo dad dambena waa ka fahmeen dhammaan isku soo dar adilada loo daliishaday laba mid in la yiraahdo aayadahaas iyo ahadiistaas macnihii saxda ah ma aysan ka fahmin salafkii kuwan dambe ka fahmin in la yiraahdo iyo in la yiraahdo kuwii hore sax u fahmay ee kuwana macna aayaduhu iyo hadiistu aysan lahayn dul saaraya labaday mid tahay waa in la yiraahdo salafkii ama dadkan dambe la ala hudan aw fi dalal mubin labada qole hanuun ku sugan qolna dalaal ku sugan waa qoladee waa ku dambe labada midayta illa ila kuwii hore si sax uma fahmin oo waxa ka dhimana naaqis way fahm illa illadu way taagneed maanicna ma jirin masaladaas waa mas'ala sharx gaar u baahan waxa weeyaan ma qiyaam al muqtadi wa adam al maani waxa jira wuxuu hadaysan jirin waqtigoodii oo ay kadib yimaadeen xukun waa laga sii kara aayad hadda telefoon sharci wuxuu ka qaba hadii la yiraahdo aayad ama xadiis waa loo daliisha kara marka telefoonka macnihiisa laga hadlayo ya maxaa dhaxay hadii la yiraahdo ee salafkii kama fahmin hadii salaf ma jiri telefoon ma jiri ma jiri Soomaa wixii marka aan horay u jirin markay dhacaan kitaabkii sunnada xukun waa laga siinay xukunkaasna sharti waxa uu ah qaabka iyo ciladu inuu waafaqo qaabkii salafka sharti u ah soo ma jeedid laakiin cilada mawlidka loo dhigayo waxa la leeyahay waa jacayl nabi iyo farxad ma jirtay ciladaas waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigii saxaabada ma jirtay ciladaas waa jirtay wax diidaya in mawlid la dhigaa ma jirin mana aysan dhigin idan hanuunka waxa ku sugan salafkii tanbiiha toddobaad waxay tahay jacaylka nabiga waxa la yiri jacayl nabiga loo dhigayo waana hor u sheegnay iyo farxad nabiga waa jecelnahay waana ku faraxsan qofka naftiisa ka jeclaan iyo ehelkiisa waalidkiisna muumin kaamina ma oo iimaankii waajibka laga heli soo ma jeedid laakiin su'aal qofka jeceshay ma la waafaqaa mise waa la khilaafaa waa la waafaqaa haddaba waxa nabiga jecel Abu Bakar Umar Uthman Ali iyo qeyrkooda saxaabadii ah oo raacay iskana daayay wuxuu samayn iyo ilaa qiyaam saacad dadka reedka isku jooga jecel laakiin qofkii khilaafay waa jecelahay waa afka baarkiis hayla qofka jeceshay lama khilaafo si gaar ah adiladii kitaabkii sunnada si guud uga jawaab si gaar ah waxa la yiri nabigu waa soomi jiray qamiista sheekana horay uga jawaab in yar ina halkaas uga daraan raba laba arimood laba dhinac koow nabiga sallallahu alayhi wasallam bisha rabiul awwal 12keedu soomi jiray meel dhigayda ma jiro horta arintaas ogaada nabigu isniinu soomi jiray iyo farqiga u dhaxeeya rabiul awwal
isniintu bil kastay ku jirtaa sooma bishii bal 4 goor bil walba ku soo laabanay ko marka horta rabiicul awwal nabigu soomay lama hayo bal 12 iska badaaba waa ko waa isniin labo isniinta soonkeeda markii la weydiiyay nabiga sallallahu alayhi wasallam saddex iluu ku cileeyay macnaha illa murakaba oo saddex wasfi ka kooban illa murakaba oo saddex wasfi ka kooban ku cileeyay oo wuxuu yiri daaka yawmun wulidtu fiihi wa yawma bu'ithtu fiihi aw unzila alayya waa maalinkii lay dhalay kaliya ma dhig waa maalinkii lay dhalay waana maalinkii lay soo diray oo rasuul iga dhigay وانا مالكي قرآن كان يقول سودتي نبي ما بيش ربيع الأول القرآن كان يقول سودتي بشار يقول سودتي رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقو سنين مركز رمضان كنت توي سنين تنبغي صوم كعلينا كدمنا سنين تي وحكم عام كوي الربيع الأول كما أصل معها شيء أنا مسألة مركز أصوليين تكالين قاب علمي وين مسألة الله قهضه مركز كهض لا يوحي هذا إلا مركرا haddii wax lagu cileeyo iladaas taafir iyo xukunkii laga ma qaadan karo ilaa ay dhameystirnaato soo ma jeedin kuma ilay marka dhalasho kaliya xukunka laga ma dhalin karo ee waa in la isku daro dhalasho iyo in la soo diray waa in la isku daro tan kale waxa isweydiin leh maalinkaad soonto qofka cuntada cuno xaflad dhigta ma ku waafaqmise waa ku khilaafar ya see looga dhalaaliyey nabiga ku dayaaho asagu waa soomay anuguna cuntadayda cuno xafladan dhiga sida loo kala dhalaaliyay misalada loo kala qaatay waa sidee u fiirsada haddeer idinka wax kala fiirinina si oo iska qof walba u fahmi karo maalmaha ciidda marmar ma la iskhilaafaa oo qolo inta soonto qolana waa ciid soo lama yiraahdo marmar dadka maalinkaas soomay iyo dadka xafladay ma iswaafaqsan yihiin maya waaba maalin xanuun badanba waaba arrin xanuun badan idan xafladaysi iyo soon isma waafaqsana subhanallah waxaan ku gabagabeynayaa kelmadayda macnaha muxaadaradu meel looga laabto ma lahayn laakiin waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo ogaada yahuud kitaabka alla u soo dejiyo tawraad ahaa waa sheeganayaan haddeer nabiga alla u soo diray ma muusana waa sheeganayaan waxay iska dhigayaan inay diinkii sidii u hayaan laakiin waa magac bis waa diin foojiriya waxay sheegayaan sooma mashakiya kaaga jira yahuudu gaalata masiixiyiintuna waa nuuci nabi ciisana waa sheeganayaan injiilna waa sheeganayaan laakiin magac weeye diintin ilaahay nabi ciise ku soo dejiyo injiilha ma hayaan sooma waa wax la bedelay waxana la rabaa waa diin foojiriya muslim nabi maxamedna waa la sheegana kitaabka quraanka waa la sheegana laakiin maxaa laga rabaa si foojiri oo gaala kormeeraydo oo ay raali ku yihiin ku qanacsan in loo haysto marka nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban fatuba lil ghuraba diinta iyadoo qariibay bilaabatay qariibnimaday ku laabayda